السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي إذا شرفتي قيماي غاية بدن ومسكين كمسكين عاوي أضو قبرتين برامجتي له ملول بالدنيا على ذاك جوكتين سودوات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودو هذا ملول بقى جوكتين وعن لي ومسكينك مسكين عاوي أضو قبرتين برامجتي له ملول بالدنيا على ذاك جوكتين سودوات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودو هذا أصحابتي إذا قيماي غاية بدن ومسكينك مسكين عاوي أضو قبرتين برامجتي له ملول بالدنيا على ذاك جوكتين سودوات. wararkii ugu dambeeyay madaxweyne qoorqoor iyo madaxweyne waare khudbadii ay ka jeediyeen magaalada Baydhabo xarunta koonfur galbeed warbixin ayaan kaga hayaa iyo madaxweyne Lafta Gareen. wararkii ugu dambeeyay ismidaamiyihii isku qarxiyay iridka laga galo sida ugu soo tooday warbixin ayaan kaga hayaa. soo dhawaada meel walba joogtiin waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. saraakiisha ciidanka madaxtooyada iyo wiilkii dhalinyarada ciidanka nise ka tirsanaa iyo dhalinyaradii caseeyaasha oo Iiraan ilaa 5 wiil oo caseeyaala ay ku dhinteen xogta aan helay. waxaan leeyahay samar iyo iimaan eheladii iyo qaraabadii iyo hooyooyinkii u shaqayn jireen allah ka sii. soo dhawaada meel walba joogteen waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. meeshaan waa la kala adkaaday. haddii wax la isku hoosaasin jiray maanta bannaankay taallaa. madaxweyne waare warkiisa waa ku hayaa hadduu ilaah yidhaahdo. qoorqoorna waa ku hayaa, Lafta Gareenna waa ku hayaa. labada nin ee fidnoolayaasha ee qabiiliistayaasha ee tuugada ee imaaraad iyo Kenya u shaqeeyana jawaab saafiya la siiyey. waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed, waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya rag ayaa u soo baxay. 3 maamul goboleed oo dawladda Soomaaliya taageersan. madaxweyne Lafta Gareen waare waa maqlisay wuxuu yiri waxaan ku xantaawir inaan dawladda Soomaaliya u xagilno haddii intay noo yimaadaan yiraahdaan xataa warnimada dawladda leen ku xantaay waxaan tabeenay dawladda nagala hadla annaka dawladda aad leeyni. bal warkayga si fiican u dhageyso. adeer bahashu waa la kala adkaaday. meeshaan waa 2 nin oo hawiya, 1 nin oo digli mirifla iyo 1 nin oo hawiya way madaxweyne dadaa waxay ku tirinayaan daarood. madaxweyne farmaajo daarood maaha, mareexaana daarood maaha. dadku waxaan rabaa inaan caawa wax badan u caddeeyo. wacalaykum assalaam waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh. fiidooga noo sheer gareeyo. waxaan rabaa inaan dadka wax badan u caddeeyo. madaxweyne farmaajo mareexaan daarood maaha, mareexaan waa laakiin daarood maaha. mareexaan waa dad hawiya la noolyihiin. wax daarood la yidhaahdo ay arkeen male. madaxdooda oo dhan gabdhahay qabaan waa hawi, waxay la noolyihiin waa hawi. dadaa waxay rabaan ceebtoodii inay ku qariyaan. ceebtoodii niman la yidhaahdo majeerteen iyo niman ogaadeen la yidhaahdo ayaa waxay rabaan ceebtoodii inay ku qarsadaan ay yidhahdaan daaroodinimi. farmaajo daarood maaha. anaa inay caddeynay i weydii. maanta waa madaxweyne Soomaaliyeed. markii runta loo badiyo hoos la aadana ninkan waa nin hawiya. waraysi macalkiis ninkan waa nin hawiya. laakiin dadka waxaan rabaa inaan si fiican ugu sheego oo maanta isoo weydiinayay arrintu horta meel fiicanay maraysaa. arrintu meeshii ugu fiicneeda maraysaa hadduu ilaah yidhaahdo. koramka noo buuxiya. dad daarooda darbiyada madaxa ku garaacanaya, madaxda madaxa ku garaacanaya leeyihiin meesha waa la tashtay. war qoorqoor iyo waare iyo Lafta Gareen waa hadleen. waqtigii aldaarosimiya iyo waxaas dhihi jira waa dhawaatay. 2 nin oo tuuga waayo, mid majeerteen iyo mid ogaadeen waayo. dadkoodiina dawladnimo rabaan laakiin waa 2 shakhsi. marka waxaan rabaa dadka raba inay farmaajo xisaabsadaan. waxaan leeyahay farmaajo inay xisaabsana. marka koowaad waa madaxweyne Soomaaliyeed oo aniga kow aan ku taageersanay inuu madaxweynahayga yahay. haddii hoos loo dego mareexaan daarood maaha. dadku way yaqaanaan, deegaanadoodii yaqaanaan, isirkooda yaqaanaan, meelay ka yimaadeen farcankooda yaqaanaan. marka dadku waxay isku qaldayaan. bahasha haddii la yidhahdo maanta la xisaabsado axmedoobi iyo deni waxay ugu aroortay inay yidhahdaan 3 nin oo daarooda maaha. haddaad 3 nin oo daarooda u tihiin maxaa hawiye intay farmaajo u taageereen 2 nin u diidantiin? dadkani wax loo sheego waay. bahasha dadku waxaysan ogeynaan jirin. anaa inii sheegay runta markaa inii sheego. nimankan mareexaan la yiraahdo igra lahada dadku qaar si fiican inay ugu jeedaan walaal oday gudoomiyaha caawa
hoostuu gelaya hoosta dad badanaa iga dabageeyey dad badanaa waxay rabaan inay dadka shaati been u saaraan marka waxaan idhaha wax daarood la yirahdo meeshaan ma jiro horta markaa inii sheego daarood wax la yirahdo ma jiro ninkii daarood been la imaanayo darbiyada hahawane iska majeerteenso iska ogaadeynayso wax daarood la yirahdo meeshaan ma yaalaan madaxweynahan waa madaxweyne Soomaaliyeed waa madaxweyne aniga laftigeyga aan Soomaalinimo ku taageeray oo madaxweyne Soomaaliyeed u baahanahay 30 sano dhibaato ku jiri anigu qabiil madaxweyne kuma taageersanin hooyadayna Mareexaan ma horaan kugu sheegay laakiin hooyaday waa daarood marka horta inii sheego dad badanaa yaqaana haddana waa inii caddaynaya daarood waa abtiyaashay laakiin markaa runta inii sheego aan iskiin bar anigu nin hawiyaanahay laakiin markii baasha hoos la sii aado madaxweyne farmaajo waa la yaqaanaa wuxuu yahay Mareexaan waa la yaqaan Mareexaan isirka fac waa la yaqaan Mareexaan isirka fac waa la yaqaan Mareexaan si dalkan qabiil ay dawladii Soomaaliyeed markay burburtay ayaa qabiil ayaa horta kown u ahayd qabiilka waxaa la yiri tacaarafu isku garta ay diinteena tiri laakiin isku caayo isku dila isku awood sheegto man halin laakiin dadka Soomaaliyeed waxa rabaa inaan u sheego horta saddexdaan nin ee maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo galmudug iyo hirshabeelle waa koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo galmudug iyo madaxweyne farmaajo iyo ninka la yiraahdo Cumar Finish saddexdoodu waa xuluf horta afartooda iyo farmaajo waa xuluf labada nin ayaa meesha wiyo ku arkaan ila runta la rabaa in la sheegay maantana nimankii dharkay dhigteen qorqor iyo ninkii waare la yiraahdo dharkay dhigteen waxay yiraahdeen adeer ana waxaan fiilkaas nool iman or dadka aan tuso aan mar inay shido aduu ilaa yiraahdo aan iskiin bar qorqor aan orda qorqor iskiin bar dadka qorqor ma yaqaanaan libax u soo baxay galmudug hatta wiisa u soo baxay qorqor ninkii la yiraahdo bal aan iskiin baro فيديو شير قرية نكي وارنا عن سكين برو وارنا عن برو نكي وارنا عن برو دتكو وعلى الرواء دتكو إن رتنا للشيغو وارنا عن برو واره وكان مدحوين سودو الدو إلى إرادو سيرا سكين برو يسوغا وحير وحا الغدري ايدايمو هي عبشو iyo weydiisasho iyo gogol galid lagu soo gudbiyay ama hab qabiil ama hab dawladeed mid ay doontaba ha ahaato absolutely aniga aragtidayda cabashooyinkaas iyo gogol galiinkaas iyo tabashadaas laba jid midkood un bay ku fiicnaad iyadoo miisaankaas la leeyahay oo saas loo mataqaana abaabulan yahay in dawladda iyo madaxweynaha intii goboshaas loo dhigtay leeyahay madaxweynuhu hadii binkeeda leeyahay tolkaasaan nahay dawladdaadana dhibkaas ka tirsanaynaa naga garbax yes ama hab qabiil loo garbax ma fahanteen markii ma inay fahmin oo maleena inay labada nin ay yiraahdaan hab qabiil inay yiraahdaan madaxweyne waxaan nahay dad isku daaroosimiya barnaamijkaasi noo imow waxaan ka tamaynaa oo hab qabiil ay madaxweynaha inta ugu yeertaan ay hab qabiil madaxweynaha ula hadlaan haddii kale hab dawladood in loo wada hadlo bal warkayga si fiican u dhegeyso adar baashu nimankii hawi dharkay dhigteen babaani haddaad maqli jirtay caawa runay marasaa muqdishona wada tashiya loogu yimid warkayga si fiican u dhegeyso ku soco madaxweyne ku soco iga raalaada qadkaa ibre amase waxay ahayd cabashadaas aniga iyo qoorqoora hadda dawladdu ku matalineen in intii naloo yeero nala soo dhaweeyo naloo shirbo garbaha nala ka galo nala dhaho warnimayaha dawladdan weliba waa laydinku xantahay maxaad ka gashaan horta sideedaba
absolutely that's right laakiin dhaankaas ceel biyihiisu ay yaryihiin loo dhaanshay mana u malaynayo in biyo badan laga keenayo ما شاء الله hortiis labadiiba ma sameyn nimankaan hab daaro sinimiya ma aysan madaxweyne olaad nin ma dhiin madaxweyne laba nin oo daaroodane cabashan kaane aan ku nimaano nala hadal anag dhul samreed ma aadane sidaas haddii mar gogashii la dhigay oo ay intay iyakiis ku yimaadeen wada hadleen yiraahdeen madaxweynaha waxaan ugu yeereynaa madaxweynenimo in markii la yimid oo haddana heshiiskii dhul samreed 1 iyo 2 lagu heshiiyey inay saddexaad yiraahdaan ma imaanano ay haddana yiraahdaan muqdisho noogu imaado warreysa adiga adeer meeshaan caawa runta la isku sheegay bahashu Soomaalida waxay tiraahdaa maslaxa beena meeda hoosiyad Soomaalida saas tira maslaxa beena meeda hoosiyad mas'adii beebeen la isku qaslo nimanka warkooda waa cadeysteen labada nin runta u sheegeen laba nin oo dawladda rabin qabiilna rabin waa laakiin dadaa raba inay qabiileeyaan oo yiraahdaan madaxweynihi waa sidaas adeer annaku haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed lamar 1 haddaan nahay dadka magaalada Muqdisho degan lamar 2 haddaan nahay dadka hawiyaha lagu tiriyo annaga madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare iyo madaxweyne nooca bariis macawnigiis waan ka ilmaamay qorqor wuxuu yiri bal warkayga si fiican dhageyso fiidowgana share garay qorqor wuxuu yiri haddii ay yiraahdeen dhul samreeb 3 mi imaanano maxaa u imaan weysan markaan nirana wuxuu yiri khudbadiisa oo ku soo wadaay xukuumad ma dhisna marka taas awgis haddaan dhul samreeb nimaano waa qorqor si taleefanka ku sheegay qorqor ay taleefanka ku sheegay labadoodaba ma imaan karo dhul samreeb haddaan dhul samreeb nimaano xukuumad ma jirto waa ku soo wada waa ku shida xukuumadii fulinaysa ma jirto marka sidaas awgeed ma imaanan waa yiri hadda maxaa shirkana lagu yeeraa u yiri ra'iisul wasaare ma dhisan u yiri ra'iisul wasaare ma dhisan u yiri waa in lagu yeeraa u yiri marka ilaan iyagu waxay yiraahdeen markii ra'iisul wasaare la dhiso ayaan anagu raalina waxaa markaas noocad baa lama qaldi karo qorqor iyo adeer waare iyo lafta gareen lama gaadi karo laba nin waa saddex nin oo tashto way lama gaadi karo marka micnaheedu waxay ahayd dhul samreebaan rabin ujeedo kale iyo waxay marka hore u imaanayeen dana iyo u qaasa markay dhigayso adeer marka runta inii sheego dalkan ama dawladdaani marka runta inii sheego daarood wax la yiraahdaa diidan marka runta inii sheego naceeb ay marixaan u qabaano waare waa maasanta kugu soo noqonaa hadduu ilaahay yiraahdo geesi libaaxa tahay libaax u soo baxay hawiyaata in ragata anuu ragga waa taageeriya markay niman si fiican u hadlaan waa taageeriya been may nii sheegay waxaan aniga laalaabka naca maaha ninkii inuu warkiisa caddaysto anigu waa taageeriya Soomaaliya tiraahdo maslaxa beena meeda koosay ninkii inuu idaacad iska yimaado yiraahdo maye sida Axmedoobe waxaa moodaaba nin tanaasulay markuu joogo garow nin tanaasulay ay moodaa waxa isla warniga waa soo jilay ma dabada bisbaas la geliya leer xamar markuu yimidna wuxuu yiri ciidamada gobolka Gedo laga soo saaro si ninkay yaati ninkay indhihi karta ciidamada xuduudka dhigteen kaxeeya Kenya dhihi karta oo Soomaaliya kala hadli karta laakiin isagoo Soomaaliya inuu Kenya u hadlo uu yiraahdo shuruud dawladda uga dhigo wararka aan sheegayna caawa waxay tahay in horta ninkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu horta labadoodaba inuu xabsiga inuu dhigo rabi wallahi xogta aan sheegay labadoodaba inuu xabsiga dhigay madaxweynaha waa la taliyay niman odayaala la taliyay ka codsaday madaxweyne iska daayiri laakiin qorshaha wuxuu ahayd madaxweynaha inuu intuu labadoodaba xabsiga dhigo laba madaxweyne uu dhawaaqo halkaasna Puntland madaxweyne ka yimaado ikana madaxweyne ka yimaado dalkan sidaas loo wado intii dawladda dalka madaxweyne kale ka imaanayna labadooda xabsiga inta ku cabaan laakiin madaxweyne waa la qabto waxa la madaxweyne iska daa dadkan adhoodii cadiifadii daaroodkii wixii cudurkii ay qabeen kicinayaan dadku waa si kala fogaanayaan kada isaadhood dhibaato inay arag dadku waxay dadka magac waay hadda Axmedoobe iyo Dani way og yihiin madaxweyne Farmaajo inuu Soomaaliyaanayn anigana waan ogahay adiga daawanaysan waa ogta laakiin dad siyaasadeynaya arrimaha siyaasadda madaxweynaha waxay ka dhigayaan inay la socdaan saddex nin oo mareexa ee daarood yihiin ma nimankan mareexaan markii runta la sheego adeer anaga majeerteen iyo ogaadeen iyo dhulbaanti iyo dadkaas kale markii la tiriyo leela kasta iyo waxaas dhan markii la tiriyo waxay noo yihiin daarood markii si fiican laakiin markii mareexaanka laga reebo mareexaanku waa niman hawiya deegaankooda waa hawi dadka ila dhaqmaan waa hawi waxay ku dhaqan yihiin waa hawi dabeecadday leeyihiin waa hawi gabdhahay qabaan waa hawi
المهي دلين وهوي هوري نساقي كل وليغان كل وليغان انت عرفت فيني من سياسي عرفت كان هذا حلوان هبل كان ناقوي يوقف الميس هو وهوي بأي شيء كرت هذا المركب وحلية ضد كربان مريحان إني كريحان مريحان هدوها دارود هلا ضل كان مولس كويس لي أنا ويدي والله بالله بقول برهان هلا بقول برهان مسلمات الله يكسر كنا وراني مرة رومي يقول ما نعرف بقول برهان أنتوا هلا ليه ورسكوا الشاطئ واحد كل جنتي وأنا مكي دارود كهاي بريديس وأنا مكي نيجا كل جنتي وأنا كي دارود يا من الله كلا بيحلم دارود اسمه سي meel walba intay iskaga yimaadaan dadkiisa ay dhiilayaan ceebay nagu tahay inaan wiilkeeni anaga cuna qabatayno si fiican dhegeyso wiilkeeni inaan cuna qabatayno bal warkayga si fiican dhegeyso runta waxaa rabaa dadka inaan u sheego maanta waxaad og tahay meel walba fiiri deegaan walba fiiri siyaasi walba fiiri inta aan nimankan tuugada ahayn inta kale farmaajo rabaan ganacsatada gobolka banaadir siyaasiyiinta gobolka banaadir nabadda iyo xilalka hore soo hayay aan mucaaradkan ku jirin kulli farmaajo rabaan qof walba waa ogyahay waad ogtahay beeshii murursade oo ra-iisul wasaare xasan cali khayre laga riday shir jaraa'idii magaalada muqdisho intay ku qabteen waxay yidhahdeen annaku dad qabiil ma nihin ra-iisul wasaarihii beesha naga tirsanaa wiilkeeni haddii la ridayna annaku madaxweyne farmaajoan taageerana oo wallaahi oo billahi watallahi inaan been sheegin waad maqlaysi dadku marka inay isweydiiyaan ragaan raba inay dadka siraan yiraahdaan daaroodnimo way been way mareexaan hadduu daarood yahay maanta axmedoobi iyo dani ma dhibi lahayn barurka ingiriis mareexaan niman daarooda ma aha niman daarood ku dhaqma ma aha niman dhaqan daarood leh ma aha ma igu raacin miyani videoga sheergaree ma igu raacisiin dadku inay igu raacaanoo wax fahmaan al raba tusaalan kuu tusaa marka allah u naxariistay mas-uuliyiintii hore oo dowladdii dad ka horreysay siyaad bare tiri mas-uuliyiintii mareexaan kulli waxay qabeen badanaa habargidiray qabeen iyo baalkii iyo sheeg maxallahay iyo murursade mareexaan waa la yaqaan abgaal waa dhif waxay qabaan habargidir ayay kulligood qabaan iyo murursade waa la yaqaan waa isla degaan habargidir isla degaan murursade isla degaan mareexaanka siyaasiyiintood dhan waxaan arkee nin lagu leeyahy ninkan waa taajir waa mareexaan markaa fiirisidna ilmaha habargidira u jirta raisi fiican dhegeyso markaa weydiisan waa gabar habargidir qaba ama ceer ama saleemaan ama sacdu qaba ayaa lagu leeyahy waayo loo dhihi waaye marka daarood maxay u noqon waaye ma noqonayaan mareexaan dhaqan daarood male hadduu dhaqan daarood leeyahay mar horaa intii shiraan daarood waxay dhihi lahaan warheedhe ma maanta hawiyihii iska dhaaf hawiye ma habargidir iyo abgaal iyo murursadaa dowladdii taageeraya markaasaa ogaadeen iyo majeerteen oo ka soo horjeeda oo lagu kala tegi lahaa shirarka salaanta xataa ma la iska qaadi lahayn laakiin waxaan rabaa dadka inaa u caddeeyo ama dadka hawiyo reebaadiyaashaan waxba fahmayn oo kubadda dhinaca loo qaato iska raacaya ee aan ku xisaabtamayn kooxda markay weerar badan tahay daafac gal hawiye meelay raacayaan male waxaa la rabaa kooxda hadday weerar badan tahay daafac la galo hadday kooxda weerarkeeda u yar yahayn in kooxda weerarka lagu badiyaa la rabo markay si fiican dhegeyso adeer kubadda socota anaa inii sheegay barwarka ingiriis hadday run sheegayaan qoorqoor iyo waare iyo lafta gareen intay baydhabo ku shiraan ay dhihi lahayn waraahoy adigana deegaanka ka joog anagana xaggeena aadana anoo axmedoobi u tegi mayni ma isweydiis sababa ay usoo duuleen ay muqdisho u yimaadeen ma isweydiis intii ii ka dhuusa mareeb loogu tegi waay waxay qadariyeen yaa madaxweyne farmaajo qadariyeen maxaa yeele mareexaan waa hawi habarreysi fiican dhegeyso mareexaan waa hawi ini majarteen hadduu joogi laha wallaahi oo billahi watalaan loo imaaday iweydii ani si fiican dhegeyso adeer runtaa inii sheegayaa yaan been laynii sheegin dadkan baraha bulshada ka qaylinaya yaysan been inii sheegin anigu nin in adeerkaya kursi kuma qabsadeen waa isku tanaasulla madaxweyne xasan shiikhaa dowladda iska haystay niman habargidiru xirayey oo siyaasiyadii ka soo horjeeda niman habargidiru xabsiga dhigayey niman habargidiru xilalka ka qaadayey cid juuqu dhaas male habargidir dhow waxay dhaayeen ninkaan yaa la dagaalana ma abgaala anaa la dagaalana may anaga tawriya ninku hore waa xiro waa laga soo daynaya odayaal iyo waxaa la raaraadinaya naga tagaa liid markay si fiican dhegeyso dadku waa inay isqaban karaan dadku waa inay isku tanaasuli karaan xasan shiikh dalkan nuucu rab u wed meeshu halkaan ka haystay guryu iska dhistay wax walba iska sameeyey ninkuu ka soo horjeedo xiraay cid bini aadan wax dhaaso qori qaadinayso dagaal wadama jir awiyoo dhan waa iyaka ka xun ilaa markii dambe ay farmaajo u hiiliyeen maahe maca xildhibaanadii maahe cid ka soo horjeeda ma jirto markay si fiican dhegeyso
ninka raggaa waxaa ninka walaalkaa waa inaad kursi uga taraasho inaad tiraahid madaxweyne nin daaroodaa tahay maxaa u baahanta doorasho qof iyo cod arrimay ugu xidhan tahay qaado madaxweyne markaasaa leeyahy daaroosinimo daarood maahee labadiinaa daarood oo saaxiibaayo axmedoobe isagoo ciidamo wadin wuxuu ka degay garow isagoo 200 oo ciidamo ku dhawaada ama 400 oo ciidamo ayuu muqdisho soo degay madaxweyne farmaajo ayaa muqdisho jooga daruu sheegay oo dhiwaay madaxweyne daarooda jooga yaa dadka beenta loogu sheegay maxaa beenta loogu sheegay adeer anagu waa tirinay dadku waa akhrin anigu abtiyaashay dhulbaanto waa markaa horta ku sheeg kaa qari maani waa daarood waa ogahay maanta dhulbaante ma jirteen waxaas dhib ku samaynayaan xataa joog kama dhahayn waa isku ramaan markaysi faalis laakiin mareexaan maaha daarood mareexaan markii ay iskugu tegi jireen ogaadeen iyo waraabad runtaa kuu sheega waraad haddaa isleedahay mareexaan ku sabo wallahi se mareexaan u daaroodeen aniga weydi farmaajana maanta daarood dhibkaan ma geliyeen in madaxtooyada horteeda la isku qarxiyo niman daarooda ka dambeeya in madaxweynihii siyaasaddii qalqal laga geliyo goormuu amni la xisaabtama goormuu madaxweynaha u hadlaa hadday jaanis siin lahaayeen waragay dhegeyso ma jirto dadaa waxay ku leeyihiin farmaajo iyo mareexaan waa daarood maaha wax la yirahdo wallahi daarood maaha aniga aqoontii ugu filana aan fahma maxaa yeelay waa isweydiiyey waa tiri waxaa yidhi taliya hebel yaa waay ra-iisul wasaare hore yaa waay madaxweyne hore yaa waay wasiirkii ganacsiga hore yaa waay wixii dhan waa tiri oo la yidhahdo ninkaan waa mareexaan gabar saleebaanu qaba gabar ceeru qaba ilmihiisa dhan waa ugu weyn waxaa lagu leeyahay habargidira abtiyaal oo markaysi faa dhegeyso waayo u gursan waan ogaadeen iyo majarteen iyo dhulbaantiya daaruu sheegaysiin adeer mareexaan waxaan leeyahay in loo hiiliyo u baahan yahay runtaan sheegaya haddii dadka aqliga aan haysan kuwaan cayawaandada coolaha iska cuno kursi la ujeedo waxaan leeyahay adeer banooniga dhinaca loo wada fahm dhinaca banooniga loo wada boqor burhaan halkaasuu iska fadhiya dani ma qaban karo wax ma dhihi karo ma kula tahay inuu nin daarooda dani marar ku fasaxda kuma fasaxeen mareexaan daarood maa aniga weydiye adeer mareexaan wax daarood la yihahda maa markaysi faa dhegeyso mareexaan waa hawiy waa niman goba waa niman hawiye la degan waa niman hawiye ku deegaana waa niman hawiye is dhaqdaan waa niman hawiye is dhaleen daas waaya maanta hawiyihii ay madaxweyne farmaajo aysan ugu soo horjeedi karin waxaan tugadaa le maaha markaysi qoor madaxweyne farmaajo u yeeray wuxuu yidhi madaxweyne waa ku imaanaya lafta gareeni oo isku teganaa waxay dheen waa tashana aan ka bacdi baxan waay maanta waa soo wada degan wuxuu dhihi waay ma rabo madaxweyne labadaani ma rabo madaxweyne farmaajo ay ku qanacsiin waad maqlaysa waara warkiis adeer yaa been laynii sheegin wax daarood meeshaan la yidhahda ma jirto kismaayo dagaalkii ka dhacayey habargidir iyo mareexaanay ahaayeen oo la dagaalamaya ogaadeen iyo ma jirteen bal warkeyga si fiican dhegeyso haddaad ogeyn taariikhdaana inta kaa baray haddaad ogeyn taariikhdaa inta kaa baraya adeer intaan kaa baraya waa been cilla yaa been laguu sheegay dooxada aawe dooxadii jubba aawe baradaad yaa been laguu sheegin adeer mareexaan niman gowa hawiyaa wa wax daarood la yihahda ma jirto waa been daarood dowlad ma rabo daarood dowlad ma rabo madaxweynihii hore iyo kaa dili kuwaan hadda la ridan iyo kaa wax ka riday daarood dowlad ma rabaan aniga weydi wallahi billahi ninkii ku yidhahda daarooda dowlad rabo beentiisu waradi aniga weydaada aniga maanta hawiyaha dowlad rabo ma jeerteen iyo ogaadeen dowlad ma rabaan wargeysi faa dhegeyso maanta hawiyaha dowlad raba oo madaxweyne farmaajo dhahay madaxweyne ay waa diyaaran ay leeyihin dadaa wuxuu ku leeyahay meesha waa daarood meesha wax daarood la yihahdo ma jirto yaa lagu qaldin adeer nimankan hawiyaha al raba jambal in loo dhigo oo madaxweynaha axmedoobe muxuu yidhi 3 nin oo imaadeen raa inay go-aan soo waa beentis waa tuug farmaajo rabaa inuu jambal been iyo shaati been u geliyo oo rabaa inuu u geliyo hadduu run sheegayo waa ugu tanaasullaa yaa farmaajo ku dhigan hadda yaa ii sheegi kara farmaajoyaa ku dhigan waa ogaadeen ma jarteen yaa kaloo ku dhigan nimankan kuwan kale meelahan iska fadhiyan hoteelo meeshaan iska degiyin cid warkooda dhegaysanaysa male kursiga ordiya kursi oo carrayaan kuwan wax wareysanaya male laakiin saddexda maamul goboleed iyo gobolka banaadir inta oo farmaajo taageersiin waayo farmaajo wada raaceen ma isweydiis dadaa waxaa leeyahay daarood iyo filinkaasaa jira waa been yaa layna qaldin wax daarood la yihahdo meeshaan ma jirto meeshan waa dana siyaasadeed mareexaanna hawiyaha lagu tiriyaa weligood hawiye la noolaayeen hawiyaa garab siin jiray adiga waxaa ka taqaanaa hadda life bilowday dooxada jubaxa ka taqaanaa ma taqaana dooxada jub yaa hogaaminay ma taqaana adeer ma taqaani kismaayo markii la isku dagaalamayay kismaayo mareexaan iyo habargidira gacanta ku haysta ogaadeen iyo majeerteenna duurkaas ay diifku cabaya baa kuu sheegaadan waraasaad maxay u imaan waayeen kismaayo waa taas waa kuwa axmedoobe hadda kenyaata u isticmaalanaya wareysa adig
بين لو وش هذا مو كذا مريحان ولا يسمعويا ولا يسمعونيس ولا يسمعويا يلا غلطي يلا غلطي وحين ما كانوا نعبيهين مريحان ما ogaadeen iyo majarteen marixaan lama wadaso marixaan lama wadaso way ka soo horjeedaan waxay yiraahdeen majarteen intuu nin marixaana ama nin daarooda oo madaxweyne noqon lahaa waxaan ka hignaa juhud ku bixina inuu nin hawiye kursigan koro nin hawiye inuu madaxweyne noqdo sababtoo hadduu nin madaxweyne hawiye noqdo ama siiba nin abgaala waxay leynaa ra'iisul wasaare majarteen waa waxay ogiin waxay rabaan daarood kale daaroodka hadda laftigeeda axmedow waa iska wataan maahe walaa dhulbahante walaa leela kase waxaasoo dhan majarteen ma rabaan inay noolaadaan aniga weydi madaxay uga taagiin waxay rabaan inay halkaas madaxweyne ka noqdaan awoodda ugu badan ay iska haystaan dowladda soomaaliya lugta ku yeelanaya inuu nin majarteena oo cumar maxamuud inuu halkaas u fadhiistay rabaan waa la ogi wax la isku haysto adeer aniga aqoonteena ugu filaada anigu qabiil aan aqoon maahe baashi waan ognahay qabiil aan aniga wallahi taageerin maahe haddaan qabiil meeshaan usoo fadhiisto 2,000 qofood ay daawanas runta dadku runta ma sheegaan aniga runtaan sheegaya nina wuxuu leeyahay rag waa marixaan may rag waa daarood saddex nin oo daarood xaggee taalla xabeedda iska sheegi maana ay qaldi kartaa adi ima qaldi kartaa adi ani haddaa ay qaldi karto leef ma soo fadhiistaan dadkaan weydiin laha adeer marixaan fac ka faca aqaan aniga waana soo akriya waxaan ka hadlaya waa soo akriya marixaan marka aan rabo inaan ka hadlo waa inaan historigiisa la imaado waa inaan idhahdaa ninkii hore wasiirkii maaliyadda dowladdii hore yaa waay wasiirkii hore ee ganacsiga ninkii marixaan yuu ahaa naagtu qabay yaa haayeen ilmuhu dhalay yuu ahaa marogii reis saddexdii ra'iisul wasaare ama labadii ra'iisul wasaare dalkan soo martay iyay qabaan marogii si fiican dhigis farmaajo xaaskiisa yaa waay waa inaan soo ogaado niman badan oo marixaan waxaa jira sidoo kale qaba murugsaday iyo habargida marogii si fiican dhigis dadka ha ku tirin marka ha ku tirin maxaa yeele annaga ku qasbanaa marixaan dagaal gala duu yirahdo waa gelinaa sababtoo ah firaadi waa waay gabdhaheenna waa nimankoodii waay ilmaheenna aabiyaashooda marogii si fiican dhigaysaa ilmaha annaga abtig u nahay aabiyaashooda furtaa gelina furtaa ku jira marka waxaa leeyahay marixaanow iyo dadka baraha bulshada ku jira yaa layna qaldin wax marora haddii maanta nin anigu waxaan aaminsanaya dhulbaantaa oo kursigan joogi lahay axmedoobi iyo deni wax walbaa ka tanaasul lahay wallaahi oo bilaahi oo tallaahina beji aniga abtiyaasha wa dhulbaanta ay dhala aniga runtaan kuu sheega caawaskaa bara aniga dhulbaanta ay dhala markaa horta ku sheeg waan ogaa haddii madaxweyne ay ku fadhin lahaayeen in axmedoobe iyo deni aysan hal maalin mucaarada yidhahdeen maalin walba waxay garbaha ka istaagnaan lahayen ninkaa dhulbaantaa madaxweynaha markaas ku dhihi lahayn addaarosinimi daarood way horeeraysaadi daarood way kule daarood carabtaa laga keena kuleeyi halkaasi ka taageeri lahayn laakiin waxay farmaajo ka soo horjeedaan waxaa waaye dhaqan male dhaqan daarood male mareexaan dhaqan daarood male dhaqan hawiye leeyihiin waa dad ku nooleyn kara kuna dili kara mareexaan maanta nin mareexaan waa la noolaan karta naftaada ku aamini karta laakiin nin majeerteena idin ogaadeen ma isku aamini karta lugta kaa goonaya intuu de walaalo intuu kira walaal oo birina dhulkaaga tegay qof walba waa ogi waa iska fiirnaa illa waa kula seexanaa illa waa ku soo jeednaa annaga adeer waa ognahay maana qaldi karti annaga nama qaldi kartin adeer mareexaanna ma nooga dhigi kartin daarood waxaan leeyahay marka madaxweyne lafta garin iyo waare wallaahi bilaahi tallaahi bilada iga mudantiin rag baatiin rag madaxweyne farmaajina u hiiliyey deni iyo axmedoobena runta u sheeg adeernama qaldi kartiin haddaad madaxweyne daarood waaye dhahasiina daarood wax ku siin leedeen haddii aan beedin ka tahayna madaxweyne soomaaliyada wax uga raadsan leedeen wallahi niman rag waay nimankaas gacantaa u taaga labadaas nin erayadii ay ku hadleen weligii hilmaamima adeer dhuusamareebaa diidaneedeen madaxweyne farmaajo ma rabtiin beenaad sheegaysiin haddaad run sheegaysiin daarood ahaanaad wax ugu hiilin laheedeen haddaad run sheegaysiin madaxweyne ahaan soomaaliyeed aan sidaa annaga kula hadalnay aad kula hadli laheedeen laakiin waa niman imaaraad iyo kenya u wato daarood la gatay waa daarood la gatay daarood weligiis baas waa adeer runan kuu sheega anig qabiilkama hadlaadeer laakiin adaa itusay wallahi nan bay kuu sheeg laba nin oo carab ay gadato waa carab awalba carab halkaas ka yimaadeen daaroodku halkaas ka yimaadeen dad maba ahab carabta aniga wey daaroodku dad maba ahab waxa jira ma ninka raggaa walaalkaa uga tanaasul ma yaqaan hawiya waa ku nooleynaya waana ku dilayana hawi calooshana waa kuu buuxinaya hawiye ku agbaahi mayse wallahi anaa ka dhashay weydiyaada hawiye waa la sira karaa hawiye waa la sira karaa laakiin ma dhihi kartid laba beri intaa nin u tagtay u kiraa warniyo yaa la diganta daraniya ismaaciila la digana bal xaaladda ka uraniyo ninka nin fiican wallahi dhar wuu kuu gadaya shaqo waa kula raadinaya 24 saac waa iga fakaraya iyo kule hawiye waa ku nooleynayaan waana ku dilayaan laakiin nimanka aanan ku nooleynayn kuna dilayn waa nimankan la yidhahdo jeerteen iyo ogaadeen iyo daaroodkan kale waa niman haddaad fiirisid ba la yaabisid
caawa waxay meesha la soo fadhiisteen farmaajo waa daarood intuu daaroodka yahay maanay qaldi kartaade waxay moodaa inaan farmaajo uga soo horjeesanay sida ayaga uga soo horjeedo inuu ma soo horjeedaan adeer mareexaan fac ka faca ogaadaan mareexaan waa galmudug boorataade mareexaan waaba galmudug ayay ka yimaadeen asarkood mareexaan waaba halkaas waaba habirgidib hadday kula dagaalamayaan sida habirgidibti waay hadday ku nooleynayaan waa ku nooleynayaan waa dhaqankii waxay leeyihiin habirgidib nimankaas waxay u baahayiin in garab la siiyo waxaan leeyahay madaxweyne laftigreen iyo waare iyo qoorqoor wallaahi inaysan mareexaan in hilmaameyn anoo soomaaliyana in hilmaameyn haddana nin hawiyaa in hilmaameyn rag baa tihiin madaxweyne farmaajo oad u hiiliseen waxaana tusteen inaad madaxweynihiin u imaan kartiin labadan tuugna runta u sheegtay wallahi runta u sheegeen adeer cidna ma qaldi kartiin aliye cidaa qaldi kartiin malaali ra-iisul wasaare in la dhiso waayo haddana muqdishoad hadda shir ku rabtiin inaan ku qabanno ra-iisul wasaare oo la dhisa yaa u sheegaysiin aliye mana ciyaalaan aliye runtaa loo sheeg wala waa la bahdilay cadaa loo bahdilay tuugada olba tuugaaya labadaasin aniga weydi caadi adeer hawiyaan waa kaasoo jeedaan ma haddaad ku soo jeedisiin wallahi waaga ini beriy aniga weydi adeer runtaa loo sheegay waxaan leeyahay waa ku mahadsantiin madaxweyne waare laftigreen iyo qoorqoor waa ku mahadsantiin shacabka soomaaliyeed ee dal iyo dibadba jira abaalkaas waa inii hayaan waxaad horteen geesinimo waxaad horteen arrin muhiima oo dalkii dalka u baahan yihin wargeliis war ninka ragga waa ninka go-aan kala yidhahd ninka ragga waa ninka go-aan kara waxna diidi kara waxna ogolaan kara meel loo raac male labadaa nin meel loo raac male walaa anigu dowladdan farmaajona ma rabo shirka dhuusamareebna saxiixi ma ragnimo alla iyo waa imaana anigi ininkaa waxay la qabaan ragnimo ninka raggaa waa ninka wax diida waxna ogolaada labadooda midna maaha walaa qoorqoor waa u dhamaystiray qoorqoor waa bahdili aad u bahdili sharaftu ka qaado walaa rag maa u yiri waxaan waa run rag miya imaaraada qabee labadooda imaaraadii kenya qabee intee rag kiyiin waa dumar waa dumar aniga weydi ada laba nin oo dumar rag xataa ag fadhiisa kari markay si fiican dhegeyso ninka raggaa wallaahi qoorqoor geesi dhalo adeer qoorqoor waa hawiyaa lagu sheego hawiye waa kaas hawiye nin rag hadduu kaco waa ogaanaysa hawiye wuxuu yahay dadku ilaa ma yaqaanaan hawiye waxaad ku aragtaan tuugadan aan dal iyo dadba rabin oo annagana rabin annaga maalin walba dadkeeni 10 qofoodaa dhimatay ma ka hadleen waa kuwaas kama hadli karaan ma rabaan kursiga u muuqdo aniga weydaada adeer qoorqoor iyo waara waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed oo anigaan kow ka ahay meelaad uga soo baxdeen niman raga oo go-aan leh oo go-aan geesinimo la qaatay ayaa tihin madaxweyne farmaajona waa u helisan madaxweyne farmaajo u heleen waxay yidhahdeen haddaad run sheegis daarood maa ugu helisi daarood waay waa dhehe maa daaroodnimo ugu helisiin madaxweynaha haddaadan madaxweynaha daaroodnimo ugu helinayn maa timaadiin shirki dhowsamare bal ilaahay inuu ku dhaariyo bal waa kala dhegeyso bal lafta maxaa la dhahay waare dhegeyso ilaahay aan ku dhaartay waa la bahdilay ma ceebsanayaane laakiin mana ceebs waxaan ka sheegnay haddii la bahdila xataa haddii la bahdila nimanku waa nimana xishood garanayn ninka waa nin xishood garanaya ninka waa ninka inuu wax uu sheego uu garanayo xishood ma leh ra-iisul wasaaraa la weydiiyey amniga xamaraa la weydiiyey nadaafadaa laga hadlay wax walbaa laga hadlay waxaasna wax iyaga ay wax ka galaan maaha usaliye aalagaas kuu sacliye ma fahmini dhegeysta laakiin dhaankaas ceel biyihiisu ay yaryihiin loo dhaanshay mana u malaynayo in biyo badan laga keenayo nimankaas odayaasha saaxiibadeena doorashaa la weydiiyey ra-iisul wasaaraa la weydiiyey amniga xamaraa la weydiiyey nadaafadaa laga hadlay wax walbaa laga hadlay waxaasna wax iyaga ay wax ka galaan maaha arrintiis iyo daasraay adeer waa loo dhamaystiray nimankii anigu niman saas hadlaya raba anigu ma rabo maslaxa beena iyo ma rabo niman saanu hadlaya raba wuxuu yidhi waxaa la weydiiyey amnigii doorashadii la weydiiyey nadaafadii gobolka banaadir la weydiiyey inta waxay ka galaan mar waa arrintiis nimankaan waa niman imaaraad iyo kenya haysato waay waxa laga hadlaya waa wax ummadda soomaaliya dan ugu jirta nimankaan gaalaa haysataba gaalo wallahi waa arrinteed horta waa ugu mahad celinaya rag inaad tihiin caawa waxaan leefka uga hadlaya inaa rag tiinba waxaa nimankan wax naga hadlaa weydiy dhiikarayna u rideen masiiba allaa ku riday labadaa nin oo tuugada wada caloosha waaweyn iyo madaxa ku foolxumada badan ee dhuxusha dadka iyo dalka gadanay waxa naga hadlaan weyno mar hore runta u sheeg hawiyihii intay iska dhex arkeen tuugadaha ee maalin walba gu leeyay soo dhawo madaxuu iska leeyay siyaasad meeshaba laga hadlay shambalooshi iyo cabdiraxmaan cabdishakuur meel joogaa siyaasadda farmaajo bay ku quflan yihiin meel haddii hadda aroos haddii laga waa aroos isiki leh cabdiraxmaan cabdishakuur iyo shambalooshi haddii aroos laga waa farmaajo ka hadlaya ma meesha aroosa aa la jooga mise farmaajo la jooga kuwaasay iska arkeen
waare iyo waxaa inii soo baxay qoorqoor nin la yidhahdo runtan inii sheeg tuugatiin wallah markaas ciyaal xubna waxay ku leeyihin daarood waaye daarood ma farmaaja daarooda haddii daaroodiin mar uga samir lahay waxaa la yidhi haddaad daarood sheegaysiinna daaroodnima ninka wax ugu qaban lahaydeen haddaad madaxweyne soomaaliyad la xisaabtamaysiin sidoo kalena miiska wadahadalka imaan lahayd ninka raggaa waa ninka wax diiday waxna ogolaada wallahi qorqor ergaas waa ka gatay qorqor waa maasanta aniga weligii wallahi billahi talaa galmudug ragga kugu dhalisanaa laakiin geesi ata geesi maanta laga bilaabo ku taageeriya ergaasaan gatay ninka raggaa waa ninka wax ogolaada waxna diiday wax inta u dhaxaysa waa dumar inta u dhaxaysa waa dumar naagaa tahay naago micneeda fahmay naagaa tahay ninka raggaa waa inuu intuu yimaado u yidhahdo no anigo arrintaan ama shirkaan maba u beginba iyo inaad tiraa okay oo wada hadlanaa waa isku soo dhawaanaa go-aan qaadasho adhowd inaad tirayd intaas waa ka tagtay anna intaas ka tag go-aan la soo saaro warmartiyada la yidhahdo waa la heshiiyey rag nin rag laakiin heshiisna ma rabo ii sheeg maxaa leeyahay garna ma qaadanayo garna maxaa la yidhaha go-aanna midigi go-aanna ma qaadanayo inta u dhexaysa waa dumar waa za aniga weydi wallah loo dhamaystira markaas ku leey daaroodkiina was tuugadeed wada calool waaweyn hal shay wax ka galeen haddii la weydiin lahaa oo dadkaas ama hab magaalo ama hab degaan ama hab toleed ay u warsadaan war 13 kursi madaxa adigu taagantiin ka kaca intaasaa nimankaas wax ka galeen ayadiina lama dhigin taladii oday cali in la yeelay ahayd nimankaas in la soo xurmeeyo la soo dhaweeyo dad walaala oo weliba maqnaa oo qaarkood mataqaanaa siyaalo kala duwan ay ku maqnaayeen ay ahayd in la soo dhaweeyo waa soo dhaweynayna intaas haddaan kaftanka uga baxo arrimaha dhuusamareeb run ahaantii wixii ka dhacay soomaaliduna waa og tahay dadkii joogana waa og yihiin adar fiidooga sheergaree bliis fiidooga meeshaan waa la kala baxay meeshaan waa la kala baxay been iyo shiraad muqdisho ka soo baxaya iyo waxaasaan dhihi doona iyo maxaa la yeeli waa la kala baxay meeshaan reality tagtay reality in la isku sheego dhabtii gaarta dhabtii adeer geedkaada doonto miraka garowa ama daarood sheego ama soomaalinimo sheego adig kuu taala geedka rata miraka annaku waxaan meeshaan iskugu nimid shirkii dhuusamareeb weli waa obin shirkii dhuusamareeb weli waa obin waa furin waa imaan kartiin waa xiri kartiin ma la xirin iyagu waxay sheegay shirkii dhuusamareeb in la xiray waare wuxuu yidhi waa furin wala haddan kuu shidaa dhegeys waa furin waa obin waa imaan karta laakiin shirkii dhuusamareeb yeeli maa yeeli maada yaad wax uga qaada saali yeeli maa yaa uga qaada saali adeer nima ragaa meesha war waa la kala baxay أول أنا يا بنينا مرة ملنا لوكل جيدا ما بهاشو هذا رجعني بيمرة لبا قانا واحد قاتين رجع وانا ما يسترجع نك رجع ونك قان قات وإحنا ديد كر وإحنا أقولان كر وإحنا ديد وحي أنت صدف ودمر وحي أنت صدف رجع معه نرجع معه أنا قان والله قان الله إنا أقولان إنا ديد وحي كده هاي معته وسيرو والله ما يسترجع دارو سينما يقولين قوم عشان دارو زين ما كان والله ما يسترجع ما يا قان كذي يذكر لو سمرة لو فاسينا هذا ديدين قولوا يا رجال هذا ما واحد بدي لك أوريس قولوا لي كسمة إسكتيسي إذا واحد بدي لك تينا ما أوريس ما هونيس هذا المكان أول بحرون تقشل مدعوين فرماج مساكين إسكاركن مدعوين فرماج ومساكين إسكاركن ولا هذا أقول حماه مدعوين فرماج ومساكين أي إسكاركن يسوق عين كوي عليه كان جيسيا وارا رجيدي وارا وأنا قفجس وارو وأنا قفجس وارا نبكاس سيد صاحب كي أو شيء ولي بقى نقرأ عنه هداي أيقو دقاني هدان عنو دقنا وأنا اللي نوتي لي سومالي وحكم مع هذا وحدد أول بدن نما سجوا تسون كاس عن إيه نما سجوا يسون كوسا عن لا رد ولا تقول ولا تروشان وش دي أن سجني أو نسجوا أيدنا لهين أو دي بنوعو دقا يسال لهين أو وانا كان يسال لهين هدان محو هاي إن اللي حريرنا إسكت ديني هدان إن دوننا إسكت ديني هدان سلادين لهذا الني هدان مدحوينيال هري مسؤولين لهذا الني هدان إن أنا قد دوننا إسكت ديني انتي بقى أنويني هذا سيد صاحب بدأ يقول شيئا وحي نلاقي هذين أن نراهنه دنتا بكلفته
laakiin saaxiibaday markii ay yimideen ayadoo intaasu dhacday warnimayo dhibkaasaan ku maqneen iyo waxaasaa naga hadlaysnaa waa ka sugaynay laakiin awalba ayagaa meesha iska taagtaagnaa annagaana tii hore geynay tanna ka maqneen ka sugmayn meeshaan ka maqanahayna lama joogo waxaanan dhihinna lama dhihin annaga nama qabato warkaas hadda wixii haddii iyadoo la daba socdo aan aragnana waa arkaynaa haddii la daba soco waayana meesheedaan uga dhaqaaqaynaa absolutely that's right thank you mas-uuliyadda ama doorashooyinka ha ahaato ama Soomaaliya ha ahaato mas-uuliyad wadareed way annaga dhanayna saaran tahay absolutely that's right qofay gaar u saaran tahay ma jirto yes that's right wartis inay gaar u saaran tahay madaxweyne farmaajo is gaar u saarneen qof walbay mas-uul wadareedka saaran tahay dalka in la samato bixiyo cid walbay waajib ku tahay wartis annaku kaliya meeshii joogana anaga kaliya meeshii imaanana anigu baashi inay meeshaas gaarto maror nimankan in runta loo sheego marreerib nimankan masaakiin iska arkeen madaxweyne masaakiin oo hawiya iska arkeen oo farmaajo madaxweyne masaakiin iska arkeen burkeedis ay leeyihiin waa daarood marixana daarood jijiida iska arkeen maahe waale iyo qorqor go-aan geesinimada qaadateen ool baraga matisheen naaga ma matilin soo rag ana waxaan sheegay inaan rag matishiin naaga inay matilin kuwad halkaas ka wad waare halkaas ka wad dadkan Greek yiraahdo ayaa waxay lahaa jireen nin boqora oo la yiraahdo Atlas mama uu soo qaatay mama ninkaas wuxuu aaminsanaa jiray culayska adduunka oo dhan inuu kaligiis dhabarka ku hayo dadkiina maxuu ahay wadamada ajnabiga ka mid waa aragteen taalooyin loo dhisay asagoo maaragtay adduunyadii ay dhabarka ka fuusho oo dhabanada haysta oo culays iyo dhibid iyo waxa ka socda mushkilada haysta aad yaabaysa asagu saasoo isku qanciyay dadkiisiina ma dhihin war adduunka kaliya ma sida dhig ma aysan dhihin mas-uuliyadda Soomaaliyeed ninkii kaligiis dhabarka ka saarta annaga dhahayna war iska dhig absolutely masha Allah thank you kaliga ha qaadin ha ku mashquulin ha ku welwelin muxuu ahay noo imaaw nala hadal fikradaada keenso annaga dhahayna thank you hadday joogto ye saaxiibadan maba kala foginba haye dhageyso ayaga yiri gogoshi waa maba la xirinba cid xiri kartana mala ayagaaba yiriba waa furantahay marka annaguna idin kama xirin haddana meel kale ha loo raro hana dhihina thank you adar wallahi erayo waa weyn aysan fahmi karin bobla era fahmiya iyaka waxay yiraahdeen gogoshi ha la furo bal warkeeyay yiraahd iyaka yaa laga helin afkooda waa xiranta dhow sabre baa furanta meel kale loo raro ka yeelmeen wartis adeer dadka hadlay waa dad aqoon leh hawiya haddaad ka aragto kuwa tuuga waa kuwan kuwa aqoonta u laha waxaa inii geenayaa ninkii odaga ninkaan waa laga daran yahay ninkaana inii geenayaa abargidir adeer abargidir waa kan dhegeysa adiga iyo qaabkii doorasho oo ka soo baxay loo dhammaystiro ama loo dhegaysto waayay ka maqnaa waxa ay ka qabaan iyo su'aalaha iyo labadooda istaagu feeru ridi kara wallahi labadooda nigaan feeraha weyn keensan Allahu akbar Allah wixii hadal waa leeyahay aqoonteedu leeyahay nigaan la mid ma jiraadeen hawiye nigaan u soo baxay mucaaradi maxaafid dhabarku saarta anigaan hadda mucaarad la birway waxa uu leeyahay kala adiga bara bulshada ka hadasha galmudug horumarkeeda ka hadal lacagna qaad halkan fadhiiso raggaasa noo soo baxaadeen haddaad moodiin inaad ku ciyaari kartiin daarood anaa nugu ciyaari kartiin ma nugu arki mise laba xayawaanatiin ma nugu ciyaari kartiin dadaan leenahay dad haddaad kuwa xayawaana inta badan la cuntiin aa moodiin wax walba sheegi kartiin aad raggaan oo kale noo joog ma ku ciyaari kartiin dadka Soomaaliyeed ma ku ciyaari kartiin wallahi ma ku ciyaari kartiin haddaad moodiin inaad maalin walba been u sheegaysiin iyo aqli xumo iyo fool xumo raggaana noo joog Allahu akbar Allahu la ragina soo baxay Allahu akbar ku soco ayaa halkan isugu nimid haddana safar ku soconaa insha Allah sida la sheegay annaga ma rabna inaan gaaro raacno hadal kasta iyo qaab walba oo aan la jaan qaadayn midnimada horusocodka qaabka doorashada maanta xilliga la joogo aan hore ugu weyn gadaal raacnayno kasta waxaan ka qabsanaynaa meesha taagan taas saxda ahayna waa isqaasanaynaa
thank you thank you thank you innagu waxaan qabanqaabinay walaalo aysan weliba markaas hawshu dhinacooda ka fogeenna ku qarcinay in laysugu yimaado ismareebuwan waxaa ka soo baxay wax raalli lagu wada yahay lagu wada qanacsan yahay dadka soomaaliyeed meelay joogaan raalli ku yihiin yes that's right benma madaxweynihii soomaaliyeed seexay waa run annaguna waa ku qanacnay sababtoo isjiid dheer niman tuugaa meeshaan oo doorasho dadban raba dalkaani dalka in la samata bixiyo si marka doorasho u dhow isagaa sheegaya dhegeyso doorasho qof iyo cod u dhow in dadku tii horena laga tago tana laga tago meel dhex laiskugu yimaado si dalka loo samata bixiyo ma diniyaa diidi kara iyo iyadiis bal diid haddaad diidi karto qamiistaa beri furme bal daarood haddaad taa awood leedahay oo baraha bulshada leedahay daarood anaha ka qilqiilinis bal you will see jumca hadduu ilaahay bal la imow waxa aad la imaan karto abrrs annagu bartay taalaan ka qaadanaa liida barta dib hore iyo gadaala loo socday kara barta iyo taagantaan kala qabsayna anag ragnimo nin raga dheh wallahi billahi ragaa u soo baxay allahu akbar ku soco laqantay usooreebto waxaa ka soo baxay waxay soomaali ku wada qaacsan tahay absolutely igraallow madaxweyne igraallow soomaali ku qanacsan tahay laakiin yaan ku qanacsanayn imaaraad iyo kenya waxaa ka soo baxay waxay soomaali ku qanacsan tahay labadooda waa fadhiyaan maxaa xigi doona marka maxaa xigi doona allahu akbar alla maxaa lays baran doonaa ku soco waxaad ogtihiin in wax badan la sheegi jiray meesha waxaa ka socda halkaas niman dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ah oo wada shaqayn dowle ayaa waxay samaysanayaan muddo kordhin xaggay tahay dadka soomaaliyeed in loo sheegayay ben waxyaabo jahwareerin ah absolutely waxaad ogtihiin inay ku dhammaatay go'aamo dhaxalgala laysugu tanasulay runtii la qaatay fakar kastoo la kala qabin laysu tanasulay doorasho xalaal ah dhegeyso dhinac jirin dhegeyso dad gaari aysan shaata ay talanyan ka dhigin halkaas waxaa ku hatay xal halkaa waxaa ka soo baxday wixii dadka loo jaawareeriyey iyo xalay ku lah thank you waa runtiis dadaa waxay dhahayeen maadaama labadooda ka maqnaayeen oo mucaarada qoorqoor oo dowladdu ay keensatay left grade oo dowladdu ay keensatay waaro oo dowladdu ay keensatay saddexdoodaba dowladdaa keensatay iyo cumar finish oo farmaajo uu keensaday waaye meesha waxaa ka soo bixi doonaa waxa la leeyahay waa la sameeyey waa las yeelay muddo korrin wixii dhan maxaa soo baxay doorasho loo wada dhan yahay oo la seexay oo ummadda soomaalina ay ku qanacday tuugow soo soco tuugow soco ku soco waxaan soo saarnay go'aamada markay soo baxeen waxaad ogtihiin soomaali meel ay joogtaba inay soo dhaweysay that's right waxaad ogtihiin fiidooga sheergareen please boqolkiinaan iyo xoogaa fiideo caawa waa la kala baxaya ilaa dadka in runta la isku sheego meeshan wax daarood la yidhahdo ma jirto waxa meesha ku hardinaya markaa runta inii sheego waa laba nin oo daarood ah iyo inta kaloo hawiya runta inii sheegaan mareexaan hawiyo weligood hawiyahay ninkii raba inuu ku darsado oo been aniga iga dhaadhiciyo kaa yeeli maa haddaad maanta leef intaad soo fadhiisato aad tiraada mareexaan waa daarood hadday tiraa kaa yeeli maa sababtoo waxaan ku yeelayn waa arkaba saan ku yeelayn ayaaba itustaba sababtoo ah waxayse ku yeeli mar hore u tanaasulle mar ay dhehaysaa mar hore isku tanaasuli lahaayeen hadday ahaan lahaayeen laba ninoo hawiyaa iyo madaxweyne hawiyaa hadday ahaan lahayen mar hore laisku tanaasuli laha waxaa la yidhaha waraahoy nin waalan baatee naga qaado waxaa rabtan waana kaa tagin hawiyaha waa rag saas madaxweyne xashiiqa intay arkeen ay yidhaha waraadi ana waan garowhaagi waa naga tagaliy waa looga tegay meesha naga tagaliy waa la iskaga tegay 4 sana ku dhamaatay markaas yidhahdeen ku tooramayna naga tag waxaan dowraynaa farmaajo lowrkayga si fiican dhegeyso isqaqabsi iyo dagaal iyo xabad inay magaalada ka bilaabato iyo mar labaad inay habargidir iyo abgaal ay isdagaalaan waa la diiday waxaa la yidhi macquul ma naga daay naga wada dowladnimadaa naga weyni horaa loo soconaya madaxweynahan waqtigiisa waa dhammaaday ilaahay wuxuu qadaray inaan madaxweyne kaloo hawiya ugu shubno oo farmaajo la yidhahdo aan ugu shubno haddana isagaa nooa marka dadaa waxay leeyihiin dadkay rabaan inay qaldaan oo hawiyihii reebaadiyaasha oo aan waxba aqoon waxna aan aqonin inay yidhahdaan 3 nin oo daarooda waaye meesha intay daarood ka yihin mareexaan weligood daarood ma noqon mareexaan meelay daarood ku arkeenna ma jiro
مريحان يوغادين مودو دغان مريحان يدلبانتي مودو دغان مريحان مجرتين مودو دغان اسكي دا كو كله حقي دغيان marka مريحان ويرس مريحان سافر قدي هاوري زادي قلمد قراد هذه برقه قراد هذه قلمد قراد مريحان هذه برقيديس وايه يا فرماجي يا يدمي سياوا مرزدوا وراسي فارقيس يا واي نيكي محوها مقعيسي عبد محوها عاش حاج علمي نيكي قبي الميد يا واي برقيدوا سلام وراسي فارقيس ورقيس فارقيس دلا marka waxay rabaan dadka inay qaldaan ay yiraahdaan adar waxaas ka yeelmin waad u sheegi kartaa hawiyaan ribadiyaashan waxba aan aqoon oo xaraanta lagu dhalo qabiilkii qudur ka buuxo oo sheegi kartaa laakiin aniga markii la dhaho Mareyxaan daarood waa inaan Mareyxaan dib u raadiya ilaa majarteen iyo ogaadeen waa aqaanaay in dib u raadiya iraado warhay maxay ahaayeen nimanku Mareyxaan xajeedigan horto Mareyxaan maxay aan ikis iyo ficil u raadi ay iraado nimankan asalba nimo waxay ahaayeen habargidir la dego oo galmudug nimanku sidooba markaas waxa lagu tilmaam karaa daarood ma nimanku waa ku luuqad habargirti waa ku dhaqan waa ku dagaal 24 saac Mareyxaan habargir isdila waa isku dhaqan hadda Mareyxaan habargir Salaamaan iyo wax isdilay ceer galmudug isku dilayaan meel xaafad ilaa ku dhartay binishi meel u dhow cadaada iyo dhusawre intu dhex waa isdilay Mareyxaan iyo Salaamaan Mareyxaan ceer waa isdilay dhaqankii la qabsaday reeraysan dhaqankii la qabsaday say habargir loo noolaayeen ay yawiin noqday taas aan maqlay Mareyxaan iyo wax isku dhaxreeyay nimankaas ma lagu tilmaami karo niman daarooda ma lagu tilmaami karo waa niman facka isir la yaqaano ilmahoodii dhanna ay yihiin dad hawiya la yaqaan marka ma lagu tilmaami karo dadku waxay markay isweydiinayaan waay saddexda maamul Cumar Finish waare qoorqoor maxaa magaciisa lafta gareen waay ay farmaajo ay u taageersiin waxa uu rabana ay ugu yeelaan maxay yeelay واسلنا انتن واسلنا دار waxaan ma jartani waadana islaan intan waaslan waxaan rabaa marka dadka Soomaalida inaan sheego iyo dadka u fiirsanaya reer Muqdisho waxaan leeyahay farmaajo waa nin waa bari ku dhashay waa bari ku koray Mareyxaan asalka ficilna habargidirna noolahay waa dad galmudug waa dad ilmahooda dhan ay yihiin hawi ninkii Mareyxaan aragto wuxuu leeyahay warakan hadii la yiraahdo Mareyxaan wareey fi cadda أمريكا بعد يورو غيركي يورو قبل هذا ياوي وسلام أنا واسعد وحرقلي ورنا وسلام ورنا أبتي أوتاي ورقودي يا وري وما غونا أدرك يا ابن الله قودو قو رويريس مركا أدر وحليه نمن كان هاي ودارود ما هي نمن كان أدر وحيهب وقاتل لبنان ودارود إلا لبنان وهوياو وحلوك لبيح دونا بدحتويد برجع شوف عندكيس لبنان أو هويا بيصير إنه هويا iyo laba nin oo daaradu waxa lagu kala bixi doonaa madaxtooyada hadii ilaahay yiraahdo markaas iifaana waxay tiraahdaa farmaajo xataa igu soo diray daaroodka in ka guuleystay waa tankiyo kule markaas laakiin ay dhiin farmaajo daarooda oo daarooda farmaajo wuxuu rabo ay dhiin ay ga dhacin farmaajo wuxuu ka socon waayay waa daarood farmaajo wuxuu ka dhaqaaqi waayay waa daarood farmaajo wuxuu 24 saac magaalada Muqdisho qaraxyada uga dhacayaan waa daarood waa lugooy hilal waasi meel walba keen ma jartaan u keen dhulbahantu keen وأول بوقت أنا كنت أقرن أنا برجع كده مريحان كان ولي أنا ووي بس كده بحر وكنه ريريس الدارون صور أوبس أو حلال سين مجبت حلال إذا سين ما ريريس في عنيس مركز ساترين نكان وهوي لكن عندك هوي تصنع إنه نكان دارو دي هاي لكن أنا هوسك جوين أنا ما أنا عشرنا سدح دارو أنا بابا أنا كنا أنا لجوين إلى مريحان وأنا غانا إيش الكذب هوي هاين بروركيس في عندكيس ما أركيس مسؤول من حيلها هي أما وسير صنعه ولا يناق من جرتان وقبا أما أركيس نين ليه ناق وقاعدين وقبا رتا كل شيء هذا روح يقول ما ولا مع بنت أنا يقول شيء ولا لا سدح إنه دارو إيه كلالك مركو كاكيني نكان لي هذا غرور كلالك مركو كاكين كلالك مع أولاده سدح إنه دارو مع أولاده الرئيس هذا أنا يصير رتا هذا دارودك سياسة ويسعته هوي دارود وكتر طبعا سياسة ويسعته لكن مريحان وهوي للصلاة ورجع رئيس waxa intaas oo kun oo loo taageeray wayna Swedish wali maartay ma jartano oo ama noqday ra'iisul wasaare madaxweyne oo loo banaan baxay wali ma dhig dadku waxay Mareyxaanka u jeceliin ma maleekirta waa dad yaqaan dawladnimadu waa dadka waligood ya dadka maamuli jir adduunka dhan yaa maamuli jir Mareyxaan maamuli jir wariis nima jartan kale keenadi ina madaxweyne dishiin ma he iyo lugooyo ma he waxa qabatiin ma ruta inii sheegay adarani adar wala ruta inii sheegay meel ka gambanay
dadka baraha bulshada ka hadlaya ee siyaasadeynaya ee dadka beenta u sheegaya dhahaya madaxweyne farmaajo waa daarood waxaan leeyahay adeer kuwa anig ila mid oo hawiya ayaa jira oo dowladda taageersan oo aqoon leh haddaad rabto inaad qalado cabdiraxmaan cabshukuur iyo shambalooshi aniga ima qaldi karti nin caafimaad leh oo xalaal lagu soo koriyey oo dowladnimo jecel oo farmaajo taageersan ayaana hadday tiraa farmaajo yahan waa kuu sheegi karaa asalka asra kuu sheegi karaa bal fiir adig farmaajo asirka isirka awow ayaan kuu sheegi karaa wixii ونين هوياو وريديس لفاو كسعد ديو كسعد واوي وريديس دلقان نين نوع عاس دارود مولا مرون اسخرحين لها وريديس عادي نين انت اصو لديدين او فيري بايدوتي وحوتي قرو وحوتي نو سمريب وحوتي انجريس وحوتي بلجيم انت وحوتي دورشده نوعان لا مرة نو سمريب لوغا تي واتي نين دارود دلقات كاس ما بلا والله ما عايز كشكت دارتين ماي مريحان أدر ونمن هوية ونمن اللي يغنوا وإسر كفعل يغنى وأنا قبلها إني قبان المهنة بلوركي يريس أبتكوا ناي ومريحان بلوركي يريس بقى ونقص رنتا أنكو شغنان لكن أدي واحد أنا ضدك بينو شكتوا واحد أتري أدر نمك هوية واسكت رسولية وكاس شيخ شريف يعشق ليس من تشكر أدر عماه بشكر مار شيخ شريف أسار فديان ضد كان يسكون عبين مرة دي باشو أي نقطة دي وسالفة فدي سنين إلي وراوي إيه أنا هذه تاني دبنا أوريك عن دارود كان سكدعيني لي بل وركي يسيف عونيس لكن إن دارود أركي ميسي نهاية ورايدي ورانا دارودي أنا مركب أنا الشينو وأنا ضد كاس أنطق مال نهاية ما بسوق السد أدير أنا إني شيء نيمان كان مريحان ونيمان جبه ونيمان دول نيمان يغانو ونيمان وحسومة مولجري مجرتين أوجادين ما أنا أكو أرجع ماله ما أنا إسكسوق لنا مجرت وده ديجان الصومالي ما نقدر حيس واحد يسكت درسي أنا قدر حي هذا ديننا وعلينا الحمد لله هذا الحبل بالودين وعلينا رب العالمين برنزادي أنت وعلينا صومالي ما دولة نمدا نقوين هذا أنا عددها ويا دولة نمدا نقوين ما أنت متجرو نين متشارتنا أو فرماجة تاجري براه بتشيل كجرو متجرو ويدي لكن ما أنت وعلى استانين هوية أو أدريها برجدين أو فرماجة قفوا كجعلي أنا جيل maxaa keenay nasabnimada keenaysa waxa la isku dhaafay nasab iyo garaada la isku dhaafay wallahi aan beeshay farmaajo waa ka jecelahay intaas inoo mucaaradka oo wii farmaajo ka jecelahay been ma ku sheegay raayis faalugus waa nin ku nooleyn kara kuna dili kara laakiin maalin cad oo nool ogaadin gudku gurideen markaas hooyada leedahay wiilkii ma naqaanaba ayaan ka baad u cilin meedkiisa halkaas leeyahay ma wali yaqaan marayxaana hortooda ma lagu dili karo oo ku dhimanayaan waa adiga markii lagu dilo 9 marayxaana dhimatay waxa maqlay 9 marayxaana iyo wiil abargeeda bartaas lagu dilo 10 kood waa la dilay laakiin maqlay maysi kaligiisa la dilay war horta inii sheega wala adar marayxaan dad gabo waxaan u taageerayaan ogaa waa niman nasaba waa niman Soomaalnimada ku weyntahay waa niman aan jaajuus ahayn waa niman aan weligeed la gumaysan jirin waa niman aan qabiil iyo qurun aqoonin waa dad Soomaalnimada weligoodba sharaf kala maxamed siyaad baraka dhashay farmaajo ka dhashay waa niman weligoodba dowladnimada ku weynay laakiin jaajuus oo Ethiopian iyo Imaaraad u shaqeeya dalkii gadanaya waxa ugu iimaanay daarood margeelis hawiyeena waa qabana anaga waa in aniga Cabdiraxmaan Shukr afri ilaahan ku dharta dana meel isku horimaan isaga isku dilan aniga isaga meel isku tuskaro maxaa isku nacnay aniga waxaan leeyahay Soomaalnimada ugu weyn iyo dalkii dul isagana wuxuu rabaa inuu gato intaas aniga isaga isku diidana laakiin laba nin oo ma jeerteena wuxuu yaa bow nimanka lacag ma ka hesho bow meeqa badi ka gaday bow lacagta noo badi bow noo kala qabi bow iska leey qurbaaya ku disho waxa gadatay waa hantidii waxa jaajuus waa dalkaaga ilaahan ku dhartinaad ugu iimaanay ma jeerteena ogaadin ani weydi weligood buu waxaayeen dad wada dhilifa oo jaajuusina oo dawladda Soomaaliya jaajuus jiri kuwan oo ku madaxweynaha dilay weligood basaasahay wara rutaleen ka gamanaya maahe أنا قبيلي قرنا نقول والله بني شيء وين أغنى إسر كفاء غناني وادل قومي سنجري شاشو سينا لكن مريحان يهوي نمو قومي سنجري نمو قومي سأقل لما نين هوي ملقوا أقدي لكر نين هوي ولا لقوا أقدي لكر والله ملقوا أقدي لكر والله دي ماني ماي فرينيس سقال أبرقي ردي صورت ولا الدلية ودافع يعني كاس لكن بو قلب بو ما اسقبض ما بجيكتب هذا المركب مريحان وحان ليه شرفي عيسو
dadka qabiilka inuu ku tilmaamaya anaa obolojesina ka siiyey dad daarooda ma tihiin dad soomaaliyeedaa tihiin dad hawiyaa tihiin markaa runta inii sheego dad dowladnimada kuweyntaa jirta waxaa gadateen weligiin ma laynu ku sheegin qaran dumis ma laynu ku sheegin been iyo naxli ma laynu ku sheegin xuduud iyo bad dadkii daafaciyey oo dhintay ininkawa weydii ani laakiin daarood kuwii dowladdii allahu naxariistee ina cabdirashiidna dilay waa yaka ogaadeena weligood gumaysi hayan jaajuusiinahay waa la gumaysi jir barbeen baan kuu sheega laakiin hawiye gumaysi ma ogola jaajuusnimana hawiye ma ogola hawiye waa ku dhex noolaan kartaa laakiin garow waa lagugu dhex dilaya 9 wiil ma jarteena kugu tegay maalooda lagu dilay nin oo rejoare barhada meesha lagu dilay maalini dhaafay ogta wallahi waa inii qorantay iyo billah waa inii qorantay wallahi waa inii qorantay iyo billah ninka aad xabadda ku dhufateen aad ku disheen garow wallahi waa la ogyahay cid walbana waa ogta waa loo dilay ogow aad taas marayis adeer dadku waa isqaanaan iskuma gama karaan dadku waa isqaanaan iskuma gama karaan mareexaan waa dadaan lagu tilmaami karin daarood waa dadaan lagu tilmaami karin jaajuusnimo waa dadaan lagu tilmaami karin isinka ilaahay haddaan maanta nicaysa xataa runtaan kuu sheegaa mareexaan gobgob dhasho ani weydi wax la guursado waa iyaka wax lala noolaado waa iyaka wax gobo waa iyaka raggiisiina iyaka ugu tag oo kula dhimanaya haddaan tago caawa deegaanada meeshaas oo aan farmaajo ka soo horjeedo ma farmaajo ma la idhaayaa la dilay eegaan igu wallahi lagu dilay oo ku dhex noolaanay garowa taga waa kaas oo isku kaa tegayaan wala raraysaa waa eber dadku waa kala gobsiin dadku waa kala gobsiin adeer mareexaan waxaan leeyahay obolojeesa ani ka siiyey hawiyaha ina caynaya iyo kuwa daaroodkaa ee ina caynaya daarooda inu ku tilmaamay ma tihiin dalkan cidaa ini keeno u maqan male hawiyahan ininkaa maamuli kara daaroodkan ininkaa maamuli kara because daaroodka kulligood waa jaajuusiin hawiyahan badda gada deetana waa iska gadaya ani weydi marka waxaan leeyahay beesha mareexaan oo madaxweyne farmaajo hogaaminayo waxaan leeyahay iyo aqoon-yahanadooda iyo ogaasadooda waxaan leeyahay sharafaa leedihiin shaati cid inay geli karta male beena dadkan iyakaa qabiil iyo qoran ka buuxa dad qabiil ma tihiin mareexaan wallahi dad qabiil ahayn ani weydi mareexaan ma ugu tegaysa qabiil ma ugu tegaysid mareexaan qabiil ama deegaankooda tag ama gabar ka doono meesha arta cid yaa taa ku dhigan ma jirto waraniyo mareexaan iska noqdo ma jeerteen waxaan dhihi lahaa magac intaa iska bedeshiin mareexaan iska dhig ani weydi ada mareeya ugaaska mareexaan ma ogola in qof muwaadin soomaalida deegaanada dhib laato loogu geysto laakiin boqor burhaan iyo ismada puntland muwaadin soomaalida dhexbartamaha lagu dilay garow raalliga ka wadayiin laakiin annaga dad hawiyaana waa naqaan si loo disho si loo arsado waa naqaana barareysaad nala bari ma walaalkay in la sha haddii garow dhexbartamaheeda lagu dilo waan oga hadal qaabka loogu dilayo horta inii sheegaa wallah haddaad dishiinna waa loo dilaya haddaad nabadda keentina nabadda qaadeenna waa intaas keliya bis annagu daarood waa naqaanaa si la iskaga celiyo been ma inii sheega wallah runta inii sheega daarood yaa wii maanta la isbari maa buugna naloo qori maa dadkan waaweyn intii la laayay jiilkan yarka hadda soo kora la dhihi maa daarood iyo buwaagma naloo akrinay dadku way isiqaanaan dadku way isiqaanaan ee waxaan leeyahay beentii naxliga intaa iska daysiin iyo qabiilka iyo qurunka mareexaanku waa dad goba dalkan iyo kale maamuli kara hawiina ma maamuli karo daaroodna ma maamuli karo wallahi la inii sheegi hadduu nin hawii mareexaan cayn lahaa iyo mid majeerteen iyo uu mareexaan cayn lahaa intaba waxaan leeyahay mareexaan waa dad goba waa dad la guursan karo waa dad la noolaan karo waa dad adoo baahan ku noolaynaya deegaanaad u tagto dad maantana farmaajo caynay waxba ma lagu dhahay tuug waa maantana dad deegaankiisa adoo lugeynaya leefka soo geshi ma laaya hala dil yaa bowe dani bacay bowe dil aa lagu leey markaasa gacanta gaati lagu dilaa horanaysaad dadku waa kala nasabsan yihin dadku way kala nasabsan yihin taas ogaada adeer anigu mareexaan dad weligood talin jiray aan jaajuugsayna u aqaana waan uga mahad celinaya haddii laysku tago oo ogaadeyn iyo majeerteen o dhan isku tagaan ma laga helayo farmaajo kale ma laga helayo maxaa beenta loo sheegaya maxaa loo caynaya ma laga helayo wallahi laga helayo geesi siyaad bare geesi farmaajo oo kale maalin ka hela soo sheegta soo qora inta ku soo qora ma jirta adeer weydii aniga bar warkayga si fiican dhegeyso cabdi khaliifo kuma soo wici kara xagee kaa soo waca soo wuxuu leey ninkan xagee kaa soo waca messengerka iga soo wac adiga axmed khaliif yarkay ugu qoran tahay waxaan kaa codsanayaa messengerka iga soo wac aniga kuma soo wici kara baraada taleefonkan leefkan ka daawanaya iyo dadka ma qorayo
marka messengerka iga soo wax haddaad rabto inaad hadasho ama aad rabto inaad su-aali weydiiso marka adeer waxaan rabaa intaas inaan u sheego inaan mareexaan beesha mareexaan apologies ka bixiyo nimanka doqomada ee hawiyo incaynaya iyo nimanka majeerteeno incaynaya oo u horeeyo shiino culey iyo kuwa kale doqomada ee mareexaan afku taagaya waxaan leeyahay anuu nin hawiya ayaan aaminsanahay mareexaan inuu hawiyi uu ka fiican yahay majeerteen anaa ini sheegi mareexaan dad la gumaystana ma ahaan weligoodna badda ma gadan dalkana ma gadan calanka soomaaliyana ma gadan weligood waxay u dhiman jireen oo u dagaalami jireen oo maanta dalkan uu saan yahay soo gaarsiiyey mareexaan yaa diidi kara bal diid waa kaasi cirki aada daartin cirki bal warkeyga si fiican u dhegeyso bal warkeyga si fiican u dhegeyso daarood waaye daarood weligood jaajuusin waa axmedoobi iyo dayn farmaajo maa jaajuus siyaad bara jaajuusa sheeg waa kaas waranaysaade yaa sheega nin mareexaan oo jaajuusa keen waa hebel soo qor haddaa rabtaa hadday waxay rabaan inay mareexaan jaajuusiin baraan oo axmedoobi uu hadda ka shaqaynaya mid ku xigeenkiisa oo balaayo foolxumo badana dhir badan iyo mid kaloo la yirahdo cabdirashiid janar uu kenya u gacan geliyo yiri kenya hay oo hadduu rabaa inuu sida ay ogaadan yihiin uu ka dhigo mareexaan laakiin may intay farmaajo iyo dhallinyaradaas kale mareexaan nool yihiin ma ogolaanayaan in magacooda iyo sharaftooda lagu ciyaaro sida anigaba aan u ogolayn in nin hawiya uu dalkaygii gato oo imaarada u shaqaysaan u rabin ayay iyakana u ogolyihiin laakiin waa la socdaan wax walbaa la socona dadka ka shaqaynaya inay hawiya jaajuusiin noqdaan oo baddii gataan oo rabo dhulkii baddii inay iibsadaan kenyaatii u shaqeeya imaaraad adeer anoo hawiyaa waa in ogahay ilaahan ku dhaartee anoo nool inaad igadanayn waa dhimanaa maahay waxa rabta how layma gato ani gumaysana yeeli maa dalkayga iyo dhulkaygana la gadan maa nin igu inaadeerana gadan ma karo bal warkayga si fiican dhegeyso mareexaanna waan ogo waa dadaan asalkoodii awoogoodba aan la gumaysan jirin weligoodna jaajuus aana noqon inay iyaka u dhintaan maahay dalkoo la jaajuusayo inay furunta dagaalka galaan u dhintaan maahay bal warkayga si fiican dhegeyso meeqo kun ayaa dagaalkii 77 mareexaan ku dhintay ma taqaanid taariikhda qor google gal tiri dadka google ku qora tiri meeqaa saraakiil mareexaan ku dhimatay dheh weligood dadkaas waxay ahaayeen dad mujaahidiina oo la yaqaano oo qarankii dalka u dagaalamo kaaga darnaa dulqaad badan siyaad barro victoria oo dalka arkay soomaali waxay tahay oo qof walba dhaayo dowladnimada qaar kenya uma shaqayn karti tuug baa tahay dalka ma gadan karto madax ka toogi jiri geesi dhan farmaajo waxay iska arkeen iska masaakiina oo iska naxariis badan ayaa inta garow la yirahdo shir jiraacid la qabto la yirahdo waxaan u taraasulnay oo aan garanay maadaama madaxweynihii dhowr mar uu yimid baabajaaba xamar inaan tagno oo aan bal nasiibka ummaddii aan ka hadalno xamar markay yimaadeen xalno lagu qabtay oo la weydiiyey ka bacdi markay gudihii soo galeen bilaabay inay yidhahdaan shuruudaan wadana garow shuruud inaa wadato maxaa ugu sheegi weyse ama aad ku soo bandhigi weyse maye jaajuus haata bargelis jaajuus haata xamar markaa timidaa tiri ciidamadii ha laga soo saaro gado oo ciidamada gada jooga waxay yihiin ma ciidamo jubbaland hortaagiin may miskenyaati hor see ku keentay in habsiga in mar hore dhigahayd kenya u soo sheegtay in ciidamada meesha laga kaxay dadka noocaasaa dad taageeraya dadka noocaas ayaa dad taageerayaan ay madaxweyne farmaajo qabiil ku tilmaamayaan ay haddana caynayaan aadan ugu xumahay in beesha mareexaan loo gafo aadan ugu xumahay in madaxweyne farmaajo loo gafo nin qabiil laga dhigo aadan ugu xumahay waxaan leeyahay dadka cawaandida ee baraha bulshada ka qaylinaya aniga layma qaldi karo haddaa rabto inaad dad qalado aniga ima qaldi karta aqoon igu filnaa leefaan ugu fadhiya wax walba aan ka hadlayna waan ogahay hadda ii soo qorto ay tiraa taliya hebel iyo hanjiri marka ay tiraa isla 5 minutes aan kuu sheegaa xaaskiisa waxeedii carruurtiisa oo mareexaana habranaysaadi nin aqoon lahaan aqoon waxaan ka hadlayana og bal warkayga si fiican u dhegeyso halo السلام عليكم هذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قدومي الله يستمع بحذا الله يفهم كجرا يقول سيدان كرباشي عاد قاطياش كلا جري كسيدا والله مغلية كسيدا بالبرتقو سلام يا والله بنت وشدي ما ي بقول نين أو أذو كلا أردن يردا هدان هل الهنمان تهرمر وقاري لهن الله أكشر تنكي وحكتك كسيا ما قرانا يو وحن مغلتر وح أسوا فلني
soomaali inay falan tahay baan u malaynaya soomaali nin wax gata oo jaajuusa maahe dadkii nafta lahaa waa dhammaadeen dhul shisheeye wuxuu yahay waanu garanaynaa nin ragina waa garanayaa nimankan caada qaatayaasha ah ee dhalinyarada maraykan waaba dad noolo waaba shaqaystaanba waaba xayiba kuwa yurub jooga ee calooshooda shaqaystayaalla haddaad kuyuubay u galaan garaamka kuyuubaa ay u galaan oo lagu siiyaa ceerta ma garatay qabiiladana ma matelaan calooshoodunbay matelaan qabiil walba hooyo daarood isaaq hawiye dir madhibaan gabooye cid walba wax xun way leedahay qof qura laguma caayi karayo horta dhalinyarada taasaan u sheegaya qabiil qof qura laguma caayi karay horta taa ogow ma garatay soomaalina reerka ugu wadanisan oo maanta gaal iyo islaam laysku wada raacay waa reerkaa mareexaan run baad sheegtay dowladdeennii lugaha la haystaa sidii mukulaashii ayaasaa loo xaganaya loo cunaya markaasaa meel walba wax laga gelinaya bal hadda dhalinyaradii iskuulaadkaa lagu wada kiciyey inkasta oo dhalinyaradii aaladahan ay waxbarashadii ku ilaaween meel walba ay joogaan oo horumarkan la gaadhay xagga qalabka dhibaato dadkii waalidkii ka haystaan gaal iyo islaamba waxa weeyaan dhalinyaro khaladka waa la saxaya waxaad khalad ku leedihiinna saxa waxaad dowladdu khalad ku leedahayna waa la saxaya wax malaa'igi ma jiraan ilaahay baan khaldamin ma garatan qofka bilaadan waa khaldan karaa dowladeenna meel walba waa laga soo gelaya war meel walba waa laydinka soo gelinaya war waddanka haddaa burbursaan yaalla idinkaa leh xoolihii wax laydinku qaban lahaa unbaa dala dib loogu dhisaya marka sidee baa rabtaa dhalinyarada xamar joogtaay inaad wax qabsataan in wax la idin qabto wada hadla miiska wada hadalka fadhiista dadka madaxda waxa loo diro war nimankan madaxda ah oo calooshoodu shaqaystayaasha iyo idiwaali dhalinyarada xamar baa sheegaya nin walba waxaad eegtaa ninka madaxda isku sheegaya caruurtoodii xaggee joogaan daawahoodii xaggee joogaan waxa ba'aya ee hoogaya waa idinka hooyada liyaanyada iyo saabuuska iyo shaaqa idinku soo korinaysa dhalinyarada muqdisho la shaqeeya dowladda hadday degdegsiimo door bidee baa la yidhi kaadsiimana kaash dhashaa macnaha waxa degdega lagu koro faa'iidadeeda waa la helaya waxa miisaanka iyo deganaanshaha lagu qabtana miisaankeeda waa la helaya farmaajo meel walba waa laga dalooliya dac walba waa ka dalooliya war ninku dulqaad badana war ilaahay haybadu siiye fiicana anuu haddaan ahaan lahaa guddoomiye waa ka carari lahaaba wallahi been ma aniga goobaadi waa carari lahaa dulqaad badana ka farmaajo ah maasha allah ilaahay ha u siyaadi amiin waa mahadsantahay thank you waa mahadsantahay thank you nin meeshaana kulalo isoo wacaye habar soo dhow haye السلام عليكم. عليكم السلام. والله آدي وطاير صار برنامج شاهد آدي وهلا مكان. سيفي عن أبشرين شنو؟ والله صوت أفريقيا جوا صوت أفريقيا وتكبتون هاف مال الله مكان. أكو أغاني أبشرين. آدي نور وديجلي آدي أقوك صاحب صار. الله كشرف راكي شنو؟ أنا حافظ. فرنت هذا. الله كشرف فرنت هذا فرع محيته. تلفون بدنا يسوى عاي. آدي مدت كان مكان مريحان وعدد الجود مكان. أبشرين. مطلع وعدد هوية آدي أقوك طاير سنة ولا الكي. أبشرين. sababtoo ah ku dhaqan ma ahan dabeecad ma ahan nimankan allah naga qabto wallahi magaalada muqdisho dhib ayay ka wadaan waa aragnay wadooyinka loo xiray wax kasta loo xiray ilaa haddan lugoos bay wadaan lugoos ma garat dan Soomaali u joogan meesha dan Soomaali u joogan laakiin waara iyaa ka tumeen iyo ninka la dhahayo sheeg Axmed qorqor walaalaheen hadda magaalada muqdisho ku jahayna liiro markay tagaan waxaan rabnaa inay wacdara ka jiraan wacdara waa tageen saddexdooda isla socdo waa tageen iyo saacadeen marka shirka bribo furmaya ama brito way khamiista بريت برنامج أبصر صار أنا وربحين بقارنا وربحين أيه هدو إلى ما سنتي تنكي وما سنتي نكلم ماشي أنا تلفون أرداي مصطفى وكله ما غن مصطفى
مصطفى gudoomiye assalaamu calaykum عليكم السلام سدو من لوقان كاسو صار فرين اسمع ذهين تداسو يكون دقيقة ما أعرف سدو aad iyo aad horta barnaamijkaaga waa la socday in muddoona waa ku xiraa daawadada keliya baa kaa ma garan هي سدو laakiin maanta aad buu ii soo jiitay waxaana rabay inaan horta qol qodob inaan kuu soco ana tilmaamo horta cadowga soomaaliga ah annaga waxaan u naqaanay qofka ajnabiga inuu yahay ma garan أبشرن laakiin waxaa jira cadow suuraddana kuula eg maqaarkana kaala eg af soomaaligana kugula warrama maalinba kataar garaacda hebelow wacda ma garan سفيان labada nin ee qawaar ee maanta taagan in ciidanka qaranka soomaaliyeed in laga qaado xuduudihii dalka laga qaado ee difishinka lixaad ee kenya lagu wareejiyo dhul soomaaliyeed taagan وقبلي بلد حاو أي أنت أصلا صنو إذا يحلو تجناين 600 inta uu meesha ninkaa yimi waa 657 qof dhimashada ku maqan gacantiisa ma garad واجد gabdho uur lahaa ka mid ah 78 jir ah oo oday waxaa la yidhi badiya u dambey kaala siisida nabadoonkii guud oo soomaaliyeed ani haweenkii lexda kuma soo koobayo ee bardhacad magaalo lagu dhex toogto waad ogeyd سفيان qodobka muhiimkan kuu soo wacay ee igu muhiimsan kuu soo wacay xaqiiqda dhabtaana kuu sheegaya nimanka maanta xamar muqdisho jooga ee leh haddaan u taqnaanshirno waxaa nala dhahayaa 3 nin oo daarooda shireen daarooda وبين شات بين مدحنا وقلاي farmaajo daarood lama ahan daaroodna uma ahan labadoodana cadowga koowaad daarooda ah xaqiiqdan aniga taabta aniga kula hadlay nin maraaxaana baan ahay runtaan kuu sheegaya واجد أبشرن cadow aan iyakaan ahayn ma jiro xasan sheekh maxamuud markuu meesha joogay laba kataar oo carab dheera jiri midna garowa laga garaaci jira midna kismaayo أبشرن dowladnimada hawiyaa diidanay federaalnimada hawiyaa diidanay waa baxay xasan sheekh واجد haddii hawiya dowladnimo diidanaa ummad soomaaliyeed diidanaa midnimo qaran u soo diidanaa waa baxay ninkaanaa yimi أبشرن كسر maxaa ku dhaqmayaan maxaa kula dhaqmayaan وعلى maxaa kula dhaqmayaan وعلى لي أبيه واجد كسر maanta hadduu meesha ka baxo ilaahu muu yimaada awees geedo jafooda ma timaado واجد kataarkooda ma joogsanayo barti buu ka shidanaya ma garan سفيان اللي مالا كلا يتبضى كيراني أبشرن waxaa la dhaho aba waxaa loo daro waa seeto dantu waa ku seetaysaa marna runa kuu seetaysaa mar tabaryariya kuu seetaysaa kuu xanibtaa marna xaqiiqda ku dhedhegsiisaa أبشرن wax walbana haddii limidkooda la dhaafiyo khasaaraa u dambaysa أبشرن تاسع بينهن أبشرن maantana in soomaaliya meesha ee ka timi 9 la ogaa oo amxaaro lagu sii daayey oo yurubiyan kufaar lagu sii daayey oo badda iyo togas lagu shubay oo cunuga 3 jirka ah ee maanta soomaaliya suuqa magaalo bajoogta magaalo xeebaha u dhawan jooga ee sanka bahal buraha kansar ka soo baxaayo oo badayga lagu shubay kenya maanta maxay nagu haysataa waxay nagu haysataa dhaxalka awowgeeni abbeen bay nagu haysataa annaka awal dal iyo dad dulmiya naga haysata kenya أبشرن maxay maanta duulaan noogu tahay kenya inta farmaajo jeceshahay xasan sheekh wallahi inaysan necbeen xasan sheekh intay neceb tahay muuse biixi wallahi inay jecleen أبشرن horta meel fiicanaad ka taabatay nimankan daaroodna maahan magac daaroodna nalama wadaagaan soomaalina sinji kuma lahan marka xaqiiqada dhabta loo fiiriyo weliba deni waa ninka inta nairobi bartigeeda inta istaagan yidhi soomaaliya waa bugtaa meesha lagu daaweyn lahaa waa سفيان kulmani markhaatiyaan ka nahay سفيان ninka dhahay soomaali waa bugtaa kenya daaweynaysa واجي يا بيبي سومالي وابك كينيا داوينس aniga والله marka loo hadlo أبشرن waxaase iga si ayaan dar kuwa hor fadhiya u sacbinayo kooma may ku jiraan ma sarqaansan yihiin jini
sidii magaad dhacay ka dhargebniya kaalsho kuwa Soomaali u qabay oo uba sabcinay hor fadhiya si fiican marka aniga midna waa qiraaya midna waa yeela hadalkayga hadaa waxa ku jira ninka farmaajaha jileec fara badan iyo dulqaad fara badan uu sameeyay dhibaatadan ugu dhacayso su'aashan qabo waxa waaye masuur roobo waa xiran Soomaa kaas waa tug dhalay awaasdar waa xiran si fiican Ahmed Maro kaga baxay gafur dub Arsenal oo saako ugu dambeys waxay sameeyeen malahaya maya darbigii la soo taagsiiyay 20 jiro si fiican marax laga togto madax ana ma baqab xabada Soomaaliga loogu talagalay qofka Soomaaliga in lagu dilo cado oo Soomaali carruus lagu badbaadiya ka qiimo badan laamiga bartigiisa inta la dhigay ana waxa qabo in ruulo loo bariyo ruulo baash laamiga ruulo loo rusi balarinis absolutely anu taasan qaba وما سنت تنكيل تلفنا بدنا سواء أجري حسنات الله كشي وما سنتهاي وأنا كاجي مهد علا وقتي يا مصطفى تلفك وبدني هاي ضدكو عن روا إن وحير إني شجو أحمد وكجر وحير عن روا إن ضدك الصومالي قارة قرالة يصدره عن روا نكي إيشي كرا هيشجو مريحان جاجوس ولي سلم شيء مريحان بدقة ولي سلم شيء هوي يمجرتين يو أوغادين داروزمي يوي كل جاجوسين كوا بدقة كوا إيشي مصماس بلاي لو إيدي كوا إمارات أشقية كوا كينيات أشقية كوا ولي قد قميسها يا إيشي كرا وما سنت قرال كاغن وكاغس الجواب كسو عليكم السلام horta nin samafalaa fiican oo macnaha waxa ahayd Soomaalida oo idin ay macnaha ku daba tukato laakiin nin dhalinyaro tahay baasha qabyaalada ka daa qabyaalada hadal aniga tayda aniga fiiri aniga tayda ka hadlin tayda ana xaq u leh waxaan rabaan ka hadla adiga masixi karti mawduucan ku soo qabtay su'aal hadaa qabto ay weydii kartaa live waad haysataa waa ka hadli kartaa aniga hadaa su'aal ii qabto waxay weydii kartaa waxaas aniga qabyaalad kama hadlin marayxaan maahi mursadana maahi maahi ogaadeen iyo majarteen midna maahi anu nin habargidar aan ahay waxaasad qabyaalad ku samaysay haddaad itiraado nin su'aalan kaa qaba qabyaalad daa ay tiri qabyaaladan ka hadlaya maxay dadka hadda aflagaadeenay Soomaalida ay ogaadeen waa jaajuus hawiye waa jaajuus alleeday soo dad qabiil ka dhashay maaha war qabiilka ana hoos qabiilka sheegay xita su'aashiga dhigeyso ogaadeen waa jaajuus weligiisna waa lagu meeysan jiray bantamiya دني إمارات وطن هذه في هذه دني إمارات دولة الصومالية مرة بان ما الشيء ما له ذا نيو دمرات يتنيو دمرات نين دمر وحنوسنات نين دمر وحنوسن نين جيران وحنوسن dadku qaar ay iskaga jiro moogta wuxuu ku leeyahay sheegino niman jaajuusiina naga tagde mar damana ima arkaysid waxa ku dhalo was kuwaas dalka iskaga jir waa uqdad iyo qabiil oo been ma sheegina kuwa hadda badda dhiibiyaaw Saad Raxmaan Abshkuuri ina Cabdirashiid yaaway maxay dhaheen madaxweynaha nala ogaa yaaway mar mani maraxaana ku jir waa beentu u sheegay brad waxa seelay imaan haddaan raga taayna waa taqaana imo telefoon iga soo weyn aniga hooyada ina meeshan ka caayo ugu qasbin hadda hooyo Soomaaliyeed waa igu qasb laakiin waxaan ku sheegaa qabiil anaus qabiilkaaga iyo kuwa taageeray ay sheegaad wariga adeer marayxaan dad gabo waay dad la yaqaan waay nasab waxa lagu heeso dhan waa qalad nala noqo gaal nala noqo badda gado dhulka gado imaarad lacag ku sii marayxaan ma ogola dulli baa tahay arrinta ku sheegaade ma waxaan leedahay ma jeerteen oo imaarad baddi ku haysta oo dowladnimo diiday ogaadeen weligood la gumaysan jiray Kenya ku haya iyo sheeg maxaa la yiraahdaa meeshana saan WhatsApp-ka Facebook laga jabsado kulay Facebook bal warkayga si fiican dhigis adeer dadka runta dhibta waxay rabaan in been Soomaalidu waxay tiraahdaa maslaxa been meeda ku jira bal warkayga si fiican dhigis Soomaalidu waxay tiraahdaa maslaxa been meeda ku jira wayna dhacday
ورمضان عيدو أهل يشيسيو وريا أدي الماء عيشو أنا واي ولا كلتي بريت لمي ذا جروجيا عدان ويلا اللي قدر عدان هو يدي عدان دمت ما هي كنت مت مصلحة بينا لكن مركي دريس الله يرى علماء الله يرى اللي يرادو مصيبة الله ينكريدو هداد عدان دريس كا أتكسر حد قلتين إني كان مصيبة الله ينكريدو عدان دريس كا أداكوا عبستين إلهي وحنا برينا إن جمعها عدي نب وضع أم في النوضة لا يحترت جمعها الأساس كده دليل ضدك وضي راعيا ضدك وضي راعيا لكن الله ما ده اللي شيء صومالي waxay tira maslaxa been meeda ku jir dalkan waxaan meesha ku soo gaarsiinay da hal reebel hal daay reebel wax laga sheegay hebel wax laga sheegay ayaa dalkan lagu soo gaarsiyo maanta 10 qofood magaalada muqdisho u dhimatay maanta 10 qofood magaalada muqdisho ku dhimatay adigana hooyada qabiila taageeraysa oo tuuga rayidis adana anu cid aan tilmaamay hooyadii xataa ma rayidis marayxaan aniga hooyadii ma iyadii xataa ma rayidis runta ku sheegay ma ku dhibe ay ku dhibe tuugan aniga dadkan ka dhashan waa tuu majartan waa tuu ogaadina waa tuu ma been sheegaysaa hawi hadii wax nool laga helo wax nool hadii laga helo kulligood oo mucaarad rayis faandis kii maanta farmaajo xafiiskiisa ka shaqeey markii la yiraahdo lagu bedelaa nin kale lagu bedelaa markii la yiraahdo soo habar gidira oo nin murasada lagu bedelo ama soo abgaal hadii nin habar gidira lagu bedelo jaa wuxuu shirku wuxuu ku jiraa loo barka baad wax ku arkay sheekh Shariif yahay sheekh soo la fadhi yiishan buloosi Abdurrahmaan Abshko war faal shido wariya waxa lagu dhaxal kila ra'iisul wasaare hore ali waxa lagu arkay xasan khayr lagu dhaxal kila inta u yareen inii iimaan ma oo wallahi oo billahi oo tallahi ruuxa ku sheegay ninka wiya waa ninka dhiigal wariya waa ninka ragaantees qabtaan ka taga wariya laakiin si nin dhoo cilmaanaan ka dabuureeyay oo xafiis iyo idaacad soo fadhiista naga la miyaad war isfaandis kii xil laga qaado abgaal iyo habar gidina mursada wuxuu fadhiyaa xash meeshaas ku arkay shambalooshi Abdurrahmaan Abshko soo la fadhi dawladii lu gooniyo dhaay farmaajo waqti waa ka dhamaad hadda uu ku leey 10 qofood magaalada muqdisho ku dhimanas wadooyinku waa xiriin oo soo bandhig in dawladda aqli iyo kala shaqeeyaan yiraahdo madaxweyne soo nimanku weesanaka ma aha nimanku ku dhigan socnaga ma soo wiimanina waa kaaga tagna madaxtooyada ma sharti laad kursiga ma salaam 10 sano ka bacdi su'aal darad farmaajo dalkan waa sihla farmaajo dalkan waa sihla ma afrila ta ka daaqada loo taagin halkan laga taagin inta loo taagin way dawladda ma badin 10 qofood dhimatay dadkeena wariya markaas qabiil noola iimaanay tuuyo haranta lagu soo kori 10 qofood dadkeena muqdisho ku dhinta maanta 20 oo ku dhaawacmay nin isu soo xilay ma ninkii soo xilay garow isku qariyo ma uu kismaayo isku qariyo al-shabaab waa haysteenay wabaali benta ilay maane annaka gacmaha isku hayn al-shabaabka guriyahana ku haysan kaararkeena qarxiyada ku soo gudbina rayis faandis runta leeni sheegay runta dadku way dhibe ana Soomaali waxay tiraahdaa waxa la yiri ma taqaana runtu dadku way dhibtaa ya Soomaali waxay tiraahdaa run sheege waa ceeb sheeg hadda runta sheegto wala ciibabe laakiin dadku ma rabaan inay run sheegaan waa laga gambaraya leeyda iska daa in adeerka waa iska daa in adeerka 10 qofood dhimad wuxuu sheegaan in adeer ani sheekh Shariif iyo Sheekh Abdurrahmaan Abshko iyo shambalooshi muqdisho ka qalqaylnaa faa'iido ugu jirto maxay 10 qofood dhimatay maanta faa'iido ugu jirto maxay ma ay ka dhintaan oo qarac 10 ku dhintaan raay sheegay maxay tahay adeer dalkan runta la isku sheegay hawiina dawlad ma rabo ma jaartaan iyo ogaadeenna waa tuu iyo imaaraad iyo titifin kay u shaqeey marayxaan waa dad muslimo ilaahay rasuulkooda yaqaan dalkoodii dadkooda dhimanay dulqaad maxamed siyaad barintuu fiiriyo kuwan wallahi la gargartami karin awood ayuu madaxa inta ka saaru yiri aamus kii lagu arkay qarandibis qorta laga goynay انت كلام معني ابي محمد سياد برودري وي انا ابي ونوليه تكدو انت اصلا كشقيني دولتي سياد بر خويدا يا ابي دولتي كشقينين محمد سياد بر محمود دلوي ضد دولتنimo iyo qaran rabeeyahay anana ku soo kori ki tuugo qaran ka soo horjeesan qorta laga goyni 20 sano dalkiisa bariimo ku is 20 sano farmaajo 3 sano oo kursiga maalin walba geeska dhacay inta laga haya madaxtooyada la cilniya been iyo dhar iyo wallahi waridina siyad bararidina wax la fadhiya la maraf roorteed maalin walba waxa dhimanaya dad
hooyaa soo qoraysa wiilkaygii aan dhintay aan keligiis dadka haystay ii qaraaba tegi jiri maanta baraha bulshada wallahi waa ilmey wallahi baraha si fiican dhegeyso aaway sheekh shariif iyo cali sheekh iyo cusable iyo muxuu ahaa magaciisi shambalooshi carruurtooda aw dabaday u jiraan london u jooga carruurtii shambalooshi baraha si fiican dhegeyso adeer runtaa laynii sheegaa cidna loo gambar ma dadkeennaa dhimanaya dalkeena intii dhan ugu jirta oo badbaadinaysaa la jirana kuwa tugadaan waxaa leen waqtigiina waa dhamaaday iska tag waqtigiini waa dhamaaday iska tag waqtigii dadka iyo dadka lolu goyn jiray dalkan waa ka gudbay iska tag mareexaan walaa isirka facka awoowe weligood jaajuus ma lagu tirin weligood qarandumis ma lagu tegin weligii mareexaan hub wato dhahay anu dowladan ka goonay dadkan ka goonay ma jirto gobolkaas gado mareexaanka degan farmaajo caawad u yeero safkay gelaya dowlad marna ku dhiimay kaabirgidoo dhusamaro fadhiya markuu danta uu dowladda ka waayo wuxuu iska leeyahy waa go aniga majeerteega meeshaas fadhiya wuxuu ku leeyahay dowladee maba aqoonsaninba dowladde lalaha horbuntlaana dowladda uu ku leeyahy dowlada anagu kule madaxweyne anagu kule dadka noocaasa sheegin adeer runta dadku way dhibe laakiin guddoomiyaha waa ka gambadaa aniga waa ka heshadaa qabiil iyo qurun iyo waa ka heshadaa lama imaada meesha laakiin markay runta gaarto waa laynii sheegaya mareexaan ma lagu tirin karo daarood mareexaan ma lagu tilmaami karo dad oo gumayste ama la gumaysan jiray ama titifyaala ama dad gatay weli nin siyaasiyo mareexaan xataa nimankan ku jiray arki mayse waxaa xilka uu farmaajo ka qaaday taliyihii hore oo ciidanka lugta wuxuu kaloo xil ka qaaday niman badan oo mareexaana hal nin oo xaggaas aaday ma ku jiro nin walbaa iska teg hotel iska degan saraakiil badan oo ciidanka booliis ka tirsanoo mareexaana farmaajo xil ka qaaday oo taliyahan booliiska uu ka qaaday weli cid iyo ko qaylinaya baraha bulshada ka qaylinaya arki mayse kii laba maalin habargidira abgaala xilka laga qaado ama ciidanka xoogga dalka soomaaliya wuxuu dhex joogaa sheekh shariifi baabade واي مركب ايش ويدي سواي واي انا مرة حالة يقول حلك لا قاعد هوتيل وسكت دقيقة ولد ولد نمدي سوسو جاي انا مركب حلك لا قاعد واي حال شيخ شريف يجيني ما ينادى حس على غير هذا نيكا وياه اغلى عليه او دلك نحي ماشي اصفر الحوض بنصور مالا قالين دكاس وكعر الله دتك لو تري قرن دمسك والله وسعك يعني بالله فكر والله سو تاغرسن تليفون وقت كل جيل او ديلا اي شقدين اسكوت انا يمكن مسؤول ايغا دماد او ديلا سو oo ceeb u carray inuu waxa sawir la galo baro si fiican nin mareexaana oo mucaarada arkimaysi laba ra'iisul wasaare ayaa dalka laga qaaday xiirane iyo ninka kale weli maar iyo comedy hor fadhi weli maar iyo nin dabada ku dhigan ama wiyaha am darada weli niman mareexaan oo media inta soo fadhiistay qaylinay ama siyaasiyiin ama ugaaski mareexaan oo majeertani ogaadeen u gardiganay arki mayse waa dad dowladnimada ku weyntahay sharaftay ku weyntahay baralis hawiye iyo majeerteen iyo ogaadeen dowlad ma rabaan anay weydi shacabka majeerteen iyo shacabka ogaadeen iyo shacabka hawiye dowladay rabaan laakiin siyaasiyiintooda dowlad ma rabaan saddex nin oo isku qabiila kismaayo ku heshiiy waa isku qabiil waa ogaadeen tugnima u heshiin iyo qarandumis iyo baddii iyo kismaayo inay gataan bal warkayga si fiican dhegeyso baddii iyo kismaayo inay gataan ayay ku heshiin bal warkayga si fiican dhegeyso waryaa mareexaan wallaahi oo bilaahi oo tallaahi dadaa ka dhashay waxaan leeyahay allah inii siyaadiyo sharafta iyo magaca raadinaysiin halkaas ka sii wada maanta uma malaynayo tala ah inaad qaadanaysiin horaa tala u qaadateen iyo aqoon inu ku filan horay u socod ha noqonina dadkan tuugada awiyaha iyo majeerteenkan iyo ogaadeenka dalka ininkaa iskale ininkaana maamuli kara hogaankana waa inii dhiibana wada hogaanka qashin meeshaanu tuugaayo baddii gadanayo imaaraad sharci daro dalka u hayo ku dhahay aniga bangiga adduunkaa la xiriiray iyo safiira magacaawiya iyo kenya uga haysta kismaayo sharci daro ay kufsi iyo dil ay ka wadaan waryaa mareexaan ma gaarasiin daaroodna maaha mareexaan wallaahi oo bilaahi oo tallaahi xataa mareexaan waryaa ogaadeen iyo isku fiiri kuwan kale iyo leela kase iyo dhulbaanta iyo isku fiiri mareexaan meel u egyaa ma jirto mareexaan hadda nin mareexaan hadda arto waxa ku dhaaranay nin hawiye kitaab jaamaca ku maray kan haddii nin majeertaan iyo nin ogaadeen kaa horimaad socodkooda ka fahmay inay daarood yihiin qaabkay u socdaan warray si fiican dhegeyso mareexaan waa niman raga adeer mana uga fikirtiin weligoodna dabadhelif ma ahayn gaalana weligood uma shaqayn dalkoodana ma gadan
dalkoodii daafacaan dalkoodii u dhintaan niman baddii daafacay niman xuduudkii daafacay waa kaas ogaadeen ku dhahaya ciidamada beled xawa laga soo saar oo anigana aanan weligii xuduud inaan meeshaas ku lahay aanan ogeyn oo dowladdii intay timid soo xirta oo dowladnimo raadini system dowladnimo mareexaan ugu imow dowladnimo haddaad maqasho mareexaan wa dowladnimo aw hawiyaaw maxaa cunaa iyo shagbad la gato iyo shagdhul la gato iyo hawiyaa ugu imaanay daaroodna jaajuusiin iyo ugu tag iyo inay carab iyo kenyaati u shaqeeyaan baraysi faa dhegeyso kuleelkaa ini dhibaya kuleelka runta inii sheega ama hawiye ahow ama majeerteeni ogaadeen ahow runa inii sheega mareexaan ma gaari kartiin anaa hawiye ka dhashay weydi mareexaan waa ka fiican yihin waa dad lala noolaan karo waa dad la dhaqan karo waa dad la guursan karo waa dad sharaf iyo ciise leh waa rag aan haddaad intaano nin iskugu timaadiin aan xataa kala dhex bixin laba nin oo majeerteena iyo nin ogaadeen haddii nin mareexaan u taga adiga aad nin hawiyaa tahay waa bergidir aad dhex tagto wallahi iskaa yeelayn inuu labada inta wax fiican siiyo adiga waxaan ku siinayn wallahi aan ku dhah war aniga mareexaanan magaaladan ku soo arkay oo magaaladan isku aragnaa meel walba baraha bulshadan ku arkay waa isla hadalnaa dad nasaba waa dad nasab iweydii ade dad nasaba waan uga mahad celinaya awoogood kafacood diintoodii dhaqankooda mareexaan waa uga mahad celinaya halkaas ka wada ha noqonina tuugadan baddii iyo dadkii gadanaya anagana beecini carruurtii suuqyada geenaya ha noqonina no wallahi adeer runta daday dhibaysaa laakiin ninaa wuxuu rabaa shaati inuu u geliyo madaxweyne farmaajo inuu shaati mareexaan u geliyo shaati daarood maaha farmaajo waa nin mareexaana qabiil markii lahana waa nin hawiya aniga weydiyaada meeluu daarood kala kulma weligiis maarag weligiis hawiyaa soo korsaday margiis dhiicaankiisa iyo jirkiisa hawiyaa ka buuxa aqli iyo aqoonta ku dhaqmaya hawiyaa ku jira markaasaad waxaa ka dhigaya daarood 3 nin oo daarood axmedo muxuu yidhi 3 nin oo daarood maxay labadaa nin u dhihi waayeen 3 nin oo daarood maxay u dhihi waayeen waare wuxuu yidhi haddii daaroodnimo inu ku jirto oo ay isdhahaysiin madaxweynaha soomaaliya waa daarood waa u tanaasul leedaan yidhi oo daarood ahaana ugu tanaasul leeda haddaad diideenna madaxweyne soomaaliyadan sidaan ula xisaabtami leeda oo cadki intaad ku goosan leeda dadkeena waan markiina yidhahdeen madaxweyne daarood see kaaga yeela anig hadduu madaxweyne daarood yahay ma u tanaasushi yaa rabtaa inaad qalado yaa rabtaa inaad been u sheegto no way may la imaan karta waxasani ama baree bulsho ka qayli oo cawaandida wii u sheeg ama taaj ha lagu siiyo oo lacag beenaha laguu soo diro war wallahadii qaldan iyo bilahi mareexaan isir iyo ficil buu aqaana isir iyo ficil mareexaan waa aqaana asalka asal dad gobol oo qarannimada soomaaliya daafaca waay dad u dhinto waay maanta waxay ka jecel yihiin inay badda gataan inay u dhintaan haddii la yidhaha nin mareexaana baddaan ma isku tuureen ama lacagtaan qaado badduu isku tuureen laakiin nin awiyaa iyo nin ogaadeynaya nin majeerteena maxaa cunnaa iyo maxaan gadanaa iyo baddaan war soomaaliya iskale dhulkan waa dhaxlada awgeed aqli iyo aqoon ma ku jirto war waxay si fiican u dhegeyso ninaa intuu soo galay uu leeyahay 3 nin oo daarooda axmedoweyne wuxuu leeyahay 3 nin oo daarooda isku tagtay war yaa qaldasiin yaa been u sheegaysiin 2 nin oo tuugaa oo ninna jiib dabada ugu jiro kenya midna imaaraad oo dabada ugu jiraa tiiri oo la kontaroolaye yaad u sheegaysiin haddaad daarood taqaanina daaroodnimaad ugu tanaasul leeda haddaad rag soomaaliyadoo niman raga waxna goosan kara waxna yeeli karaatiinna miiskooda halkaa tegi leedeen wixii intaa soo dhaaba naag way wallaahi bilahi talaa qorqor waa ugu mahad celinaya nin ragaa tahay ma moodayn geesi inaad tahay wallahi nin ragaa tahay wallahi eragaas waa soo jiitay iyo bilahi ninka ragga waa ninka waxna diida waxna ogolaadayo yes that's right waa saxanta ninka ragga waa ninka wax ogolaada waxna diida anigu ma rabo heshiiskaana ma rabo dowladdaana ma rabo miiskooda halkan tiga go-aan cadaan qaadanaya shirkaan iskaga baxaya halagu soo baryo halagu diido hadhowda halagu kala tago waxaa leedahay ninkaas go-aan u qaatay nin raga ninka raggaa waa ninka wax ogolaado waxna diida wixii soo raaca waa dumar waan uga mahad celinayaa madaxweyneyaasha 3 madaxweyne isku tegey waan kaga mahad celinayaa hadalladiina iyo shirarkiina wax ummadda soomaaliya dan ugu jirto hadal geesinimo leh go-aan geesinimo leh ragaan la qaldi karin waxay sheegeen dhan waa laga daba sheegay wallahi waxaa la yidhi hadduu nin daarooda yahay ereygii axmedowey daba socdaan wuxuu yidhi 3 nin oo daarooda isku tagtay oo hadhowdi dadku waxay leeyihin go-aan soo saaray markaasaa waara wuxuu yidhi haddaad daarood tihiin maxaad ugu tanaasul weysay haddaaba daaroodnimo ina ku jirto maa madaxweynaha u tanaasushiinayo haddii kalena sideedoo kale madaxweyne soomaaliyeed may codkiina goositiinayo wallahi raggiso waa laisku dhamaystiray meeshaan waa laisku bahadilay sharaftaa layska qaaday
waxaan leeyahay allah inii siyaadiyey aqliga aqoonta waxaad tihiin rag hawiye u soo baxay hawiye wixii ka dambeeyey burburkii maxaa cunaa iyo maxaan gadanaa iyo kursigaan dhiig igu raadi iyo soomaalinimo iyo way dhaafeen laakiin waxaan leeyahay waaray iyo qorqoor iyo lafta gareen 3 nin oo geesinimo ee ka muuqato hadalla adag ku hadlay go'aan qaatay nima ragga iga dheh anigu ninka ragga asaasaan aqaana ninka ragga waa inuu go'aan qaato uu yidhaahdo haddii dhuusamareeb laga tanaasulo ay diidaan oo kala tegina ninka ragga waa ninka wax ogolaada waxna diida waxna ma ogoli waxna ma diiday meeshaana iska wareeya garowaan aade xamaraa iska imaanaya ciidamadii laga soo saaro aan leen maxay tahay waa dumar miya dumar saasuu daba wareegaysa adeer allah aqliga inii siyaadiyo dadka soomaaliyeed ay daawanayeen waxaan leeyahay mareexaan yaan loo gafin waa dad goba dadka ku tilmaamaya inay daarood yihiin waxaan leeyahay anoo nin hawiyaa oo haddana siiba nin habargidir may qaldi kartid wallahi may qaldi kartid mareexaan waan ogahay wax yihiin inaysan daarood ahaynna waan ogahay marogeydiis daaroodna ku dhaqan maaha mareexaan hadduu dhaqan ahaan lahaa oo dhaqanka daaroodoo kale lahaan lahaa dalkaani dalkaba laysma weydiiyen dalka iyo dadkaba laysma weydiiyen hadduusan mareexaan jiri lahayn marna kulligee la gadan laha waxa dalkan hor taagan baaciis iyo dadkii in la gadan oo dalkii magac lagu soo celiyo oo kenya ay ka cabaadayso waa nin mareexaan taasaa inii sheegaya daarood ma lagu tilmaami kara mareexaan anaana obolojees ka siiyey shacabka soomaaliyeed ee dal iyo dibad joogo mareexaan ku abtirsada ugaasyadooda iyo malaqyadooda iyo odayaashooda waxaan leeyahay anaa obolojees idin ka siiyo ismaaciila oo nin hawiyaa habargidirna ka sii ah obolojeesa idin ka siiyey leefan ku jiraa walaalkey bal warkayga si fiican dhegeyso obolojeesa idin ka siiyey kana raalli ahaada ma qaldame waa ilaahay bini aadanana waa qaldamana carabkii ilkaa iskugu jira dadkaan hawiye baraha bulshada idin ka caynaya ka raalli ahaada kuwa majeerteenka iyo kuwa ogaadeenka ee mareexaan ku tilmaamaya inay daarood yihiinna waxaan leeyahay mareexaan daarood maaha dhaqan daaroodna ma leh daaroodna weligood lama kurin ku dhaqanna maaha maanta haddii ay mareexaan ee daarood ahaan lahaayeen dalkan iyo dadkan mar hore la gadan lahaa kenya mar hore la siin lahaa siyaad bari allah u naxariistee wuxuu dalka tegey isagoo labada dowladood dagaal ku qaadaya markaasuu yidhi kuwan waan u soo noqonaya dumarkaaye etoobiyaan ku qaadanaya cadowgii sirtii ay maleegayeen ayay noqotay in soomaali loo isticmaalo laakiin beddelkiisii farmaaja yimi insha allah hadduu ilaahay waxaan ka rajaynaynaa meeshii iyo meel ka fiican uu dalka gaarsiiyo haddaana dhalinyarada soomaaliyeed ee qabiilka ka fog waxaan taageeraynaa madaxweynaha soomaaliyeed aan taageeranaa qof walba oo soomaaliya intaas ogaado haana qaat caawa ku jiifto mareexaan waa dad weligood qarankan u taagnaa una dhiman jiri ogolaanayn in dalkii dadka la gato aana ogolaanayn ogaada taas dadaa raba marka inay shaati u geliyaan dadaa raba in hawiye la yidhaahdo inay yidhaahdaan maxamed siyaad barre uu ku mid yahay maxamed siyaad barre iyo farmaajo weligoodba qarannimay u taagnahay weligood kenya iyo waxay la dagaalami jireen weli lama sheegin madaxweyne siyaad barre intuu dalka haystay isagoo dad hawiyaa dilay ama dad xasuuqay maragedheys wuxuu hubkiisa iyo ciidankiisa ku leen jiray etoobiya iyo kenya nasiib wanaag waa nasiib daro waa dhintay waa naga tegey anigu nasiib uma yeelan laakiin beddelkiisii madaxweyne farmaajo hayin dadaa raba marka madaxweyne farmaajo in uga faa'iidaystaan masaakiinnimada yartaa ee ku jirto ilaahay geliyey ilaah ku abuuray anigu midaan leeyahay wuu qaatay iyo maaha qofka kuleelka iyo waa u dhasha anigu hadda dabeecaddeeda waxa waaye wax yar anoo dowladda taageersan haddaan qalad arko oo muqdisho ka dhaco jirkayga dhan waa isbedelaya wallahi isdhe ninkii maanta oran qofkii arka wuxuu leey ninkan dowladda ma ka haray sababto ah dulqaadkayga halkaas ku eg anigu waxaan mar walba jecelahay nabadda iyo barwaaqada laakiin dilal iyo dhac iyo dhul la boobayo iyo nadaafad darro markaa arko maskaxdayda waa isbedelaya runta inii sheegay laakiin madaxweyne farmaajo waa nin iga dulqaad badan oo qaraxyada u dulqaadanaya dhibka ku dhacaya u dulqaadanaya dadka dalka gadanaya u dulqaadanaya la fadhiisanaya dhegaysanaya kuwaan aniga dhegaysan laha dulqaada kula dhegaysan ma malayn maxamedoobiya daniyaa dhegaysan laha wallahi talada markii ahayd madaxweynaha inuu xabsi ku tuuro talada madaxweynaha waa seegtay go-aanku uu qaatay ahayd inuu labadooda xabsi dhigo oo yidhaahdo daaroodu la imaada madaxweyne iyo madaxweyne la imaada maca salaam dalkuna halkaasi wada kuwa hawiyahana way arki lahayn dheeshi socoto oo carar lahayn soomaalida waxay tirahdaa dibiga qal weysha ku quus qaadatay
marka waa in salaamiya insha allah hadduu ilaah yidhahdo waxaan rajaynaya oo dalka iyo dadka u rajaynaya waa mahadsantahay thank you hawiye kukii hadday tahay waa loo jawaabay hawiye kukii hadday tahay hawiye kukicinaya hawiye waa og yihiin hawiye anaa ugu soo horreeya waan ogahay madaxweyne farmaajo wuxuu yahay waan ogahay laa ilaha already waa looga jawaabina hawiye hadduu ku kicinaya axmedoobe waaba looga jawaab waara uga jawaab wuxuu yidhi haddaad dhahasiin madaxweynahan waa daarood maxaad daaroodnimo ugu tanaasuli weyseen maxaad daaroodnimo ugu tanaasuli weyseen dadka lama qaldi karaade hawiye haddaad moodiin la qaldi kara lama qaldi karaade waan unahay wax walba haddii aad daarood ahaan ka wadiin farmaajo daaroodnimaad ugu tanaasuli wuxuu rabo siiya annaga markaas madaxweyne aan la xisaabtanay haddii kale imaanada sida annagu aan madaxweyne ula dhaqmano annagoo qabiilii qurun wadan madaxweyne soomaaliyeed madaxweyne maamul goboleed ula hadlana imaada codkiina goosta marka qodna lama qaldi karo hawiina ma kicin karaan hawiina waxba kama bedeli karaan hadalladooda hawiina ma bedeli karaan go-aanay soo qaateen nimankan go-aankoodii caawa muqdisho la joogaan berina shirka furmaya go-aankoodii jeebka ugu jira axmedoobiyi deni ma bedeli karaan madaxweyne farmaajona oo ku mowqif nimankan madaxweyne farmaajo oo ku mowqif haddii yidhahdaan madaxweyne farmaajo hadduu yidhaahdo qoorqoor iyo waariy lafti gareen may maqlisiin iyo cumar finish yaas iyo aniga labadaa nin doorasho qof iyo cod ay ogolyihin ma ogashiin yaas ogolna wax ka sokeeya ma jirto wax ka sokeeya ma jirto aniga laftigeyga waa ogolay aniga laftigeyga waxaan kuu sheegaa in shirkii dhuusamareeb lagu baabi'iyo doorasho qof iyo cod waa ogolaada warareysaadi yaaba heli karaba yaaba heli karaba laakiin wax ka sokeeya ma jirto wax ka sokeeya waa la jijiifanaa iyo waa la soconaya doorasho socod kale iyo seexanaa baddaa la isku tuuraayo doorasho noocaas nama yeelis tii dhuusamareeb baa la qaadanaya tii dhuusamareeb hal midaa lagu baabi'i karaa madaxweyne farmaajo yidhahda labadaa nin doorasho qof iyo cod ogolyihin ma ogasha madaxweynaha oga samrana madaxweyneheni wa oga samrana waa naawi weliyaal naawi adoo naawiynimada fiireen oga samrana marka taas ogaada kuna seexda nimankan go-aanay soo qaateen shirkiina waxay yidhahdeen dhuusamareeb waa furan yahay haddaad axmedoobo tiri waa xiran yahay oo anoo soo soconaa la xiray waxaan kuu sheegaynaa yidhahdeen inuu shirka furan yahay nimankaan niman la qaldi kara maaha waa niman ka soo tashtay waa niman siyaasiyiin aqoon-yahanno iskugu tageen siyaasiyiin qoorqoor horta nin lamida mama jira qoorqoor mucaarad iyo maxaafidba labadan dhegay ugu sheegaya kuwii mucaaradka inu celin saan iska ilaali kuwii maxaafidka inu celin saas qaado labadiiba saaxiibu leeyahay nin la qaldi karo ama wax laga hoos bixin kara maaha ninka habargidirna waa ka dhashay ogowda dadku waxay baashi waxu yaqaanaan siisi kale ninkaan nin hawiyaana waaya nin habargidirna waaya xisaabta ku darso xisaabta ku darso qalin ku darso marka axmedoobi iyo denina kama adkaan karaan waxna uma sheegi karaan waa ka xoog badan yahay waa ka tegay badan yahay waana ka aqoon badan yahay intaas ogow marka waxaan leeyahay kama aha daarood kiciye yaa wiyi kici kama ahayn doqonnimay ka noqotay doqonnimo macnaha anigana u fahmo anigoo ismaaciila in u fahmo inaa iraado saddex ninoo daarood ahay maaha saasay rabeen laakiin waa u sheegaa inaan la fahmin inaan sidaas inay wax ka bedelaan madaxweyne waare waa kaaga mahad celinaya nin geesiya oo jawaab sax siiyata wuxuu ku yidhi daarood haddaaba tiraadeen daarood maxaa daarood ugu tanaasuli weyseen haddii kalena madaxweyne soomaaliyeed ula fadhiisan weyseen adeer wax walba waa la ogyahay haddaad igu cusub tahay mar labaad mar saddexaad youtube-ka subscribe saar gabaleelka furleegna saar warkaan waa iska cad yahay cid waxay sahayna looma saari karo mareexaan hawiyi wuxuu sahayna kama dhigi karo daaroodna mareexaan wuxuu yahay kama dhigi karaan intaasaa inay sheegay wax walba ha laga sameeyo daarood waa hal yidhaahdo kuwaan hawiyena ha yidhahdaan maxamed siyaad bar ku aqli yahay wax walba dhah mareexaan sidoodaba cidna waxba kama bedeli karto intaas ogaada aqoon ayaa igu filan aniga waa leeyahay mareexaan aqoonaan u leeyahay aqoon igu filan ayaan u leeyahay waa dad ila dega waddadaan xidinahay waddadaan isku deegaan nahay waa mahadsantiin haddaad igu cusub tahay mar labaadi mar saddexaad mahadsan tahay waa mahadsantiin haddaad igu cusub tahay waxaan kaa codsanaya inaan youtube-ka subscribe noo saarto adigoo mahadsan waan kaga mahad celinaya asxaabta ilaa 4 qofood oo camal noo saaray allah ina sharfo waan kaga mahad celinaya guulaha ina rajeynaya khayra ina rajeynaya wixii ka soo kordha berita shirka furmay hadduu ilaah yidhahdo uma malaynaya inuu 2 maalin socon doono in beri la soo gabagabayn doono ma sheegi doono xogtaasna weli ma helin maxkamadda maanta maadaama ay meesha qarax ka dhacay dadku aaday biisi u hayeen marka waxaan leeyahay intii dhimatana allah u naxariisto reer muqdishona waxaan leeyahay dulqaad muujiya way dhowda guushu way dhowda guushu wax ilaa ka dhiman shirkan markii laga baxaa ka dhiman ra-iisul wasaare markii la magacaabaa ka dhiman dalku rajo fiican ayuu leeyahay yaa layna qaldin waa la dhimanaya intii naga dhimata allah u naxariisato
intii dhaawacan allah caafiyo reer muqdishona waxaan leeyahay dhiigga sadaqaysta dhiigga waa sadaqo in isbitaalka laga soo waco oo dadka isbitaalka soo wacayaan gudoomiye facebookaga dad badan ku xiran yihiin noo dhig ceebay ugu tahay in agaasimayaasha isbitaalka soo wacaan ilaadaan gudoomiye qoraalkaas facebookaga noo soo dhiig noocaas u baahnay dhiigaa loo ceebay ugu tahay maxaa yeelay magaalada muqdisho adaa jooga dhiigga waa sadaqo caafimaad ku yahay xamaraa joogtaa fitamiinkaaga waa saa'id a plus o plus c plus waxaan loo baahnayn male dhiigga tag soo shub sadaqayso dhiig dadku way dhimanayaan maalin walba la dhibana waa la dhaawacmaya dalku xaalad xun ku jira kala guuru ku jira reer muqdishona waxaan leeyahay dulqaad iyo feejignaan dheeri ha la sameey ciidamada ammaankana waxaan leeyahay nimankii qarax meelay soo marsiiyaani waayeen waa baaba'een niman la yidhahdo danab iyo gorgoraa laayey deegaanadooda lagu laayey ilaa uu iraan 20 saraakiila laga dilay nimankii ciyaalkii xumaha soo haray saraakiisha waaweynaa la beegsanaya nimanka habeenii maalin diyaaradoo danaba weerar ku hay reer muqdisho waxaan leeyahay dulqaad muujiya ciidamada ammaankuna way dadaalayaan nimanka wax yaraa u dhiman wax yar naflacaari waay qofku ilaahay u qoraa dhimanaya qofku ilaahay u qoro ayaa dhimanaya muqdisho 2 times ayaa aniga qarax meelaan ka dhawaayo ka dhacay midna anoo wasaaradda arrimaha gudaha aaday oo hataa leef u tabinay ayaa baabuur dambe meel ku baakimeen oo nagu qarax ilaahay waa naga badbaadi qofku ilaahay u qoraa ku dhintay dad markaas caadi oo soconaya qarax u carray ayaa ku dhintay kuwii hore u dhintay iska daa qofa ilaahay u qorin waxba kuma gaaray dhalinyaro badan oo maqaayadda fadhido meesha wiilasha cashayaasha maanta ku dhinteen joogay ayaan waxba fir xataa gaar keliya boor iyo quuro iyo kusoo degtay kullu nafsin daa'iqatu lmowt al-shabaab waa dhammaanaya iraaq day 500 dhimanaysa maantana qof xataa ma lagu dilo roma wenday ma lagu dhisin waxaan leeyahay ciidamadani way dadaalayaan nimankii baawur meelay soo mariyaan waa waayeen nafla caarinimo ayay waxay gaareen inay qof ku soo xiraan qarax ayay maraysaa iyadana waa la ogyaa waa laga feejignaanayaa dadka waxaan leeyahay soomaaliyeed iyo maqaayadaha tegay iyo maqaayadaha la fadhiisto ciidamada hor fadhiya waxaan leeyahay qof walba ee maqaayadda gelaya iyo qof walba maqaayadda u soo socda indhihiisa fiiri jaakadda isma qarisa qaraxa qofka isagaa qalqalay hadda qaraxii ka dhici jiray luul yemani askari ayaa isku dhigay oo diiday hebelaa iigu jira cashaa ii taal cuntaa ii taal qofaa midaha iigu jira gudan ka fiira ma yiri waa kii carruurtiisa iyo xaaskiisa ay insha allah haddaan muqdisho taga aan tegi doona aan booqan doona hadduu ilaah yidhaha wixii aan wadnaan u geyn doonaa wuxuu isku dhigay inuu intaas kulan qofood badbaadi naftiisa u horay marka waxaan leeyahay ciidamada ammaanka feejignaan dheeri ha la sameeyo nimankan waa jabeen dalka waa wuxuu ku jira xaalad kala guur way adag tahay insha allah hadduu ilaah yidhaahdo waxaan leeyahay shacabkuna la shaqeeya ciidamada ammaanka hadda ninkaasi ilaa wuxuu soo lugeynayey baawur ama bajaaj wuxuu uga soo degaa umalayn dardiidaason ilaa intaas waa soo lugey qof shaksiya waa arki karaa haddaadan aragna maanta ogow caawa ogow qof walbo geeskaaga maraa iska fiiri haddaa aragto nin buuran jaakadda markuu caloosha markaa aragto inay wax ka buuran yihiin markuu ku gudbo gadaal fiiri suum waa arkaysaa qofka inuu cayilo yahayna waa arke inuu caati yahay wuxuu wada waa dareemi kartaa isma qariyo qof suum ku xiran yahay waa dareemi kartaa feejignaan sameeya feejignaan dheeri ha la sameeya ciidamada ammaanka iyo shacabka magaalada muqdisho waxaan leeyahay nimankaa waa naflacaari waxay leynayaan waa shacab waxay leynayaan waa maqaayad ciidan uma tegi karaan madaxtooyada ma geli karo aadi waay madaxtooyada waa kaas ma aadi karo madax laga toganaya ogi nin al-shabaaba nin ciidan ma isku akri karo baabuurtiyaa baaba'day ninna nin qori wata aad ma aqli malid miyaad nin qori wata u tag hal maruu kaashkii kugu xirantona madax kaa togto barorkaysi fiican dhegeyso waxaan leeyahay feejignaantaa la badiyo waxaa waaye insha allah hadduu ilaah anna waa inii imaan doonaa guddoomiyahana laftigeyga waa in la qaybsanaya murugada iyo cakirinta hadduu ilaah yidhaahdo dadku qaar naftooda yurubaa la joogaan laakiin anigu dalkan geena hadduu ilaah yidhahdo haddii aanoo nabada ka soo noqdan alxamdulilah haddaan ku dhintana rabbilcaalamiin dalkayga iyo dadkayga u dhintay al-shabaab iyo cadowna waxaan leeyahay meela looga soo wada horjeesto dadku way dhimanayaan waktigaagii lagu qoraa ninkan maanta inuu baawur qarax intii lagu keeni lahaa ayaa kan lagu keen kanaa sabab ku aha marka waa la arki karaa baawur lama arki karo
laakiin qof waa la arki karaa. waxaan leeyahay dhalinyarada maqaayadaha fadhiya indhihiin dhag waraa ninkaas fiiri cabaar adoo ninkaan la sheekaysanaya ishka ninkaas ku xad kaas kale ku xad waad ogaanaysaa. maqaayadda banaanka waa jidka waa ujeedaa qofka soo socda fiiri. ciidamada ammaankana waxaan leeyahay nin qarax ku xiran yahay lama arki weyne indhaha iyo feejignaanta la buriyo. nimankii waxay ku aruureen inay naf qarax nin ku soo xiraan way baaba'een. baabuur ma leh ciidan ma leh danabaa baabi'isay gorgoraaddaa baabi'isay haramcdaa baaba'ashay. maanta hotel ma aadi karaan. waxay leeyihin hoteelaan 4 nin u dirnay 4 nin waa la dilay. naf waxay ka raadinayaan 4taas nin intaa la dilay inay 300 dilaan. dadkiina waa laga soo badbaadiyey iyikiina waa la dilay. mareereysaa dadkiina waa laga soo badbaadiyey haramcadna waa leys. marka waxaan leeyahay qof walba oo daawanaya iraa lahada qofaa qoraal ii soo diray. qoraalka xagguu iga soo diray whatsappka iraa lahada waxa ii suga. amaasan tahay tankii qoraalay iisoo qortay xogta iyada le goonkeeda waay. waxaan leeyahay marka soomaaliha guulaysato soomaaliha israacdo insha allah hadduu ilaah yidhaahdo. ciidamada ammaanka ee magaalada muqdisho waa dhiirigelinayaa. shaqo badana haysiin ciidamada nisa dhalinyarada dharcadka. waxaan leeyahay goobaha layskugu tago maqaayadaha goobaha checkpointiyada intaba dhalinyarada dharcadka loo badiyo. maqaayada ka soka hala fadhiisiyo si ula socdaan qof walba oo waddada maraya. indhaha la furo. nimankan waa nafla caari ilmo yaryar oo ay qarax ku soo xireen. waxaa laga yaabaa wiilkaas caawa qarax meesha isku qariyay inuusan raalli ka ahayn oo isiri keliya ha isku qarxin inay soo qasbeen oo daroogo ka soo dharjiyeen. waayo hadda ka hor lambar 4 waxaa lagu qabta oo ciidamada booliisku qabteen yar hadda ka hor dowladdii xanshiiq isku soo xiray qarax oo shactar oo loo jeeday isdhiibo yiri qarax ay u xiran oo ilaa markii dambe loo tegey oo eeyo loo diray oo birtii la dhigay suusu isku qarxin gacmaha laga xiray kabacdiyaa laga furfuray. suntiyaa ka baxday sunti ku jirtaa ka baxday. marka ciyaalka waa sumeeyaan way duraan waa daroogeeyaan miir iyo maskax male. ilmo yaroo soomaaliya cunug yaroo soomaaliya oo liibaanayaashaan lagu liibaanin waa wax isqarxinaya. marka ilaah ammaanka waxaan leeyahay waa dhiirigelinaya. howl badanaad haysiin maalin walba qaraxa la qabtaa maalin walba howlgalaa la qabtaa kuwa biskooladaa la qabtaa. shaqo habeen iyo maalin ayay ciidamada dowladda ku jiraan. waa in ku bogaadinayaan waa in ku dhiirigelinayaan sida hay'adda sirdoonka qaranka soomaalida nisa waa in ku dhiirigelinayaan. shaqo badanaad haysiin xog badanaad helaysiin. hadda waxaa la ii sheegay qaraxan inay xogtooda ay hayeen laakiin baaritaan meeluu ka imaanaya aan la ogeyn. shaqooyin badan ay socotay ilaa xalay ilaa maanta qarax intuu dhacay wallahi inaan beenii sheegin. xogtaas waa la hayay laakiin lama hayo qof miyaa baawura lama hayo. iyaga xogta dhexdooda bixinas. marka insha allah hadduu ilaah yidhaahdo waxayna rajeynayaa guul waxayna rajeynayaa horumar waxayna rajeynayaa inay cadowga ilaah ka qabto qaraxyada allah ka qabto keligiisa allah ku qarxiyo sharta ay wadaan allah iyo ku xijaabo. haddaad igu cusub tahay mar labaad mar saddexaad youtube-ka subscribe saar gambaraalka farlegna saar waa in salaamiya bye bye.